kamarada maanta maxaa ka qaldan howdharkii baa dhamaaday. assalaamu calaykum arma la joogaa? hallow hallow zamzam, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bushra wacalaykum assalaam xabiibtii, soo dhawaada. magacyo badan iyo madaxyo badan oo safan waa u jeegaa. macodka iga xun. codka miyuu gaabsan yahay? halkii u dambeysay buuba joogaaye. waa kaa qaaday xabiibtii deeqa, waa kaa qaaday. codka miyaa xun? zamzam waxay tiri codka may maqashaan. anaa dadka ugu cod dheer be, haddii lay maqli waayo meesha waxbaa ka jira. waa ku maqlaynaa. samsamey adaani maqlayn, dadka kale haabay soo wada qorayaan. bushra waa ay maqashaa, saciid waa ay maqlaa. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. waa ay maqashaan. faa-isa ima maqasho. food baa la qaadayaa. ilaa hadda 2 qof ma maqlaan. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. okay weeye. aniga no, samsam ima maqlayso, laakiin ma garanaya wax ka qaldan. dadka intooda baqdan waxay soo qorayaan waa ku maqalaa. hadda si fiican ma la ii maqlaa? daas codkaygii caadiga ahaaye haa soo wada qora haddaad i maqashaan. midnimo jj waa i maqlaa, waa lay maqlaa. waa fasiix. yes bushra. waa idin salaamayaa. aad baan idiin wada salaamayaa dhammaantiin oo dhan. waan idiin xiisay. see tihiin? ma fiican tihiin? caafimaad ka warrama. shiir waa i maqashaan. maasha allah tabaaraka allah. aniguna si fiican baan u arkaa komankiina. waad i maqashaan markaas. hooyo hoo biyo iigu shub. markaan isku xiiqno soomaali aan biyo cabbe. biyaan idiin dirsanayaa sug. very kale sax. aad baan idiin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada meel kastood joogtaan. aadna waan idiin jecelahay. cali qaylisooy, farduus qaylisooy. waxa weeyaan waatanaa maantana hees baa jirtay. waxaa la odhan jiray maxaa la dhihi jiray? hayaay 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 ka soo baxay hayaay bay ahayd. maanta waa hayaay khatri. calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. markaa soo dhawaada dhammaantiin oo dhan. noo sheer gareeya midniba ma. thank you so much. anigu sheerkaba waan ilaawaa moogtahay. dadka markay soo galaan bay waxay yidhahdaan sheer ku dhufo laag taabo oo markaa sheer iyo laagtaba ku dhufta dee idinkuna faraha miyaa dadkan keligeena ayna gaadhay. dadkoo dhan ha wada gaadhee.
garanaysaa anigu waxaan ka faa'iiday social mediada duco waan ka faa'iiday oo dad badan baa ii duceeya dad badan oo yaqaanana waan ka faa'iiday habeen dhaweydna aroos baan tago waaba la ii qaaqaayira marka waxaan istiri qoladan dhilnimaba taqaanida waxay kugu qaaqaayirayaan talow boqolada facebook waxay colkaa la yihiin xagga social mediada marka jacaylna waan ka faa'iiday dad badan oo soomaaliyeed oo aan isjecel lahay waxaan ka faa'iiday asxaab samaysi oo meeshaan tago hudheel kuma degayo magaalo kasta yurub iyo america iyo north america iyo soomaaliya adduunka meeshaan tagaba qof baa ii jooga weji baan ka faa'iiday asxaab baan ka faa'iiday ducaan ka faa'iiday muxuu ahay markaan tago dadka aan salaamu calaykum ku idhahdo meelaha xidhadan alla codkan waan garanayaa turuq gaba xaggaan kugu arki jiray markaasaan idhahdaa ma garanaya meeshaad igu aragtay ma idhaahdo lama soo boodo moogtahay markaasi marka dambe qofku i kartaa idhahdaa waxaa tahay gabadhii karoonaha dadka kala hadlaysay waxaan ka baqayaaba inaad magaca karoonaha iigu magac dartaan marka oo tirahdaan caaliya corona mise farduus corona aad iigu magac dartaan muxuu marka habeen dhaweyto anigu aroosyada berigii hore dadka lebeenta waa xaaraane gabdhaha shidan baan ku jiri jirayo laakiin hadda waan wixii ilaahay subxaana watacaala aroosyada ma tago meelahaas oo dhan ma tago waxaan noqday homi lady so maalin dhaweyda wiilaan eedo wahay baa guursaday markaa meesha arooskii baan yartago gabadhaana ba garanaynin baaba sidii ciyaa reer anigu de reer geysaan ahay moogta khayradumaba dhag laygaga siiyo waxaan ku idhaha oo maxaad geysatay talo qofkan mama taqaanide so maalin kalena gabadh baan soo booqday oo haddana maalintii xanuunsanayso tii oo kale iga raacday marka dee dadka fadhi kudirirka iyo qabyaalada iyo reer cayga iyo ka sheekeeya cadow way samaysteen ma garanaysaa laakiin anigu runtaan sheegaa wax idiin dana baa idinla soo hor fadhiistaa lacagna idinkuma qaato idinmana maago ma caytamo waan idinka xishooda hadda waxaan bagaran waaya waxa lagula ciloobay dadka qofka laakiin de miya cadow la waaya cadow lama waayo moogtahay laakiin cadowgaygu always waa keep going anigu miyaan u joojiyaaba uma joojiyo ma garanaysaa marka horta intaasina waa kaftan hordhaca aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin oo dhan maanta barnaamij ciisalaan idiin wadaa murugadiisana xambaarsan ciwaanka waad aragteen marka ilaa corona lagugu magac darin aamiin xabiibti aamiin marka waa sax ayaan of course I will be aniga waxa weeyaan markii horeba maadaaman cidi ku magacaabin mar haddii adiga wadnahaagu ku magacaabo shaqadan kuu diro your heart is navigating you so anigu I nominated myself and I will be keep going so nobody aniga lacag kuma qaato it's my own time I'm off today gurigaygaan iska joogaa so maalintaas aan ofka ahay ama labada maalmood oo ofka aan ahay I like to say something with my community wixii aan doonaya inaan u sameeyo so waxba igama gelin waan ishubaa ma garanaysaa nin ishubaa heesa marka anigu dadkayga waan jeclahay qofka xun waan jeclahay ka wanaagsan ee soomaaliga waan jeclahay you know so whoever let them be garanaysaa marka horta aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin oo dhan meelaad joogtaanba waxaan idiin rajaynayaa guul iyo farxad waxaan idiin rajaynayaa muxuu ahay camal wanaagsan oo aakhiro janno iyo cibaado fiican inoo horseeda waxaan ilaahay ka baryayaa wixii ummadda nebi maxameda oo soomaalida oo muslimiinta ee dhintay in ilaahay subxaana watacaala uu u naxariisto waxaan ilaahay ka baryayaa inta bugta ee xanuunsanaysa in ilaahay caafiyo qof walba meeshuu ka tawalayo ilaahay ha ka tabantaabiyo subxaana watacaala waxaan leeyahay dadku geeridu way soo badanaysaa dadku way dhimanayaan sidii hore xaalku maaha mowtal qafluhu wuu badan yahay so insha allahu tacaala let's be inaynu noqono dad ilaahay ku xidhan oo maaragtay isa soo ururiya adduunyada waa inaan shandadaheena maaragtay waa inaan diyaarsanaa flight is gonna be anytime ma garanaysaa so waa inaan flightka inta uusan maxaa lana dhahaa flightka had iyo jeer saacadaha 4 saacadood ka hor kaalay baa lagu odhanayaa airportka so we need intaan flight ku imanin inaynu isa sii diyaarino marka intaasina waa iga waano waxaa insha allah suwan soo gelis doonaa maqrabka so waa inaan arrinta dedejiyo waxaan doonaya walaalayaal mawduuca gabadh yar oo mawduuc yar oo aad aragteen oo
iyo dee wax jirayba hore u jiray arrimahan iminka qurbo joogto ay ku dhaqmaan ee ah dhaqan celiska. ciwaankaygu waxa weeye ma waalidka u baahan dhaqan celis mise ilmaha u baahan dhaqan celis. sideedaba dadka Soomaaliyeed waynu kala daadsannahay, waxaynu timid qurbihii markaynu nimid waxaynaan jeclaysan baynu ku aragnay, wadamo kaleynu joognaa, dhibaata inagu dhacday, caruurtaa laynaga qaadaa, ilmaha inagu dhaga adkaada. soo waxa weeyaan qof walba waxbaa soo mara, way inagu kala duwan tahay arrintu. qofna ilaahay dhibaataba ma tuso, laakiin waxaad moodaa waxyaalaha ugu badan ee dhaqan celiska la yidhaahdo dadku inay si xun u wajaheen waalidiintu. anigu waalidku hadduu maanta intuu guuro muxuu ahaaye ka guuro waddan oo u guuro waddan oo ilmihiisii la socdo, dee waa sayf, waa reerkiioo wada socdo is ilaashanaya. laakiin ilmahaagii iyo murugooyinka hadda layla soo wadaagay intii gabadha yare hadda qaarkiina daawaday ay hadashay mawduuca, waxaan isku dayay inaan wax ka raadiyo oo research ka sameeyo ambal dad la xidhiidho. waayo dad badan baa da igu xidhana waad ogtihiin. wallaahi arrimahan maanta soo idiin sido waxyaalihii waad aad iyo aad baad uga murugoonaysaan oo waalidkii laftoodii ka sheekeeyaan ku dhacay. waalidkii carruurta dhaqan celiyaa ka sheekeeye. yacnigii markaa waxa weeyaan waxaan aad uga murugooday. yacnigii horta marka hore dhaqanka marka la yidhaahdo soomaaliyaynu kusoo kornay, dadka wixii yaryar xagga iska dhig, dhallinyarada xaggan ku kortay xagga iska dhig. laakiin hooyooyinka iyo aabbayaasha kusoo koray Soomaaliya, waxaan garanayaa diric beer qariya gabdhahoo xidhoo qaawan. waxaan garanayaa iyagoo dhiskooyo jireen oo curube iyo jubbo xamar ay ka jireen oo habeen oo dhan lagu maqan yahay dhisko iyo niiko. waxaan garanayaa iyadoo hargeysa ay ka jirtay oo habeen oo dhan gabdhuhu ay maqan yihiin oo riwaayad la gelayo oo meel kasta la maqan yahay. dadkeennii nooca ahaa markii qurbaha la soo galay in la yidhaahdo carruurtii sidaa u taagnaada oo halkaa mara oo dhallinyaranimadooda iyo haddii muxuu ahay xijaabka wax walbaba in iyaga qasab lagaga dhigo oo la yidhaahdo muxuu ahaayey hadhaqdhaqaaqin, horta waa wax laga fiican yahay. waxaad arkaysaa hooyooyin ilma, waxaad arkaysaa gabadh xidhan xijaab oo gurigooda kaga baxaysa xijaab oo markay ka baxdaan muxuu ah jindada ku ridanaysa. waayo waa lagu khasbaa, ma u xidhata iyadu choicekeeda. ilmuhu wuxuu u baahan yahay in la baro oo dhallinyarada in la baro oo akhlaaqiyan laga dhiso oo hooyada iyo ilmaheeda aanay waxba u dhaxaynin, oo hooyadu ay sheekayso oo ilmaha la sheekaysato, oo iyada iyo gabadheeda siri ku kala qarsoonaanin, oo hooyada iyo gabadheeda tarbiyada ku kala qarsoonaanin, oo aabbaha iyo wiilkiisa waxba ku kala qarsoonaanin, oo aabbaha iyo gabadhiisa waxba ku kala qarsoonaanin. laakiin come on, waxaynu inagu soo marnay dhallinyaranimadii diricii beer qariyaha iyo rashamatadii ama keshaligii caddaa iyo muxuu ahaay nigiskii muuqanayay ee gabdhuhu dhallinyarada lasoo wada mariyay, timihii afroogahay wada qaawanaa. markaynu soo kornay ee qurbo la soo galay, dhallinyaradii in la yidhaahdo xaggan ha u baydhina oo xagga ha u bixina oo xagga ha u bixina, oo marka in yar warwareegtaba dad aadan aqoon baan gacanta u gelinaya waan tuurayaa, dee lagaa yeeli maayo. runta inaan isu sheegnaa wanaagsan. teenageku markay teenage noqdaan wax walba way maraan. macnihii yacnigii waxyaalaha anigu waaweyn ee crimeka ah kama hadlayo, laakiin carruurtu dhallinyaranimo way soo maraan, innaguna waynu soo marnay. wareeg baa la soo maray. maanta oo dhan riwaayad ku jir, muxuu ahaayey heblaayo saaxiib raac, dhiskoo tag, halkan mar. anigu weliga horta dhiskoo ma tegin, ilaahi subxaana wa tacaala markhaati gashanaya, weligay intaan noolaa dhiskoo ma gelin. laakiin riwaayad baan galay. riwaayadii dhiskoona da waa isku mid, waa la daawan jiruun riwaayadda tiyaatarka oo waa la fadhiisan jiruun. laakiin muxuu ahaayey casho loo raacanin oo wiil iyo gabdho iyo wiilal isla soo casheeyo fiidis raaca, muxuu dhallinyaro bannaanka ku haasawda, guryaha hortooda kuwa fadhiya, gabdho diric beer qariyaa xidhan, everything dhallinyaranimo waynu soo marnay. wixii aad adigu shalay soo martay markaa ilaad maanta carruurtaadii cunaqabatayn ku ridid oo dhallinyaradu inay baxaan ku ridid oo aad tiraahid rowlkaygaa soconaya oo aad tiraahid xagga ha u jeesan, dee wax soconaya ma aha. dee tarbiyaddu taa ma aha. ilmahaaga haddaad doonaysa inaad aad tarbiyadaysato, mar walba adigu laga ugu hayo raac ilmahaaga, la guur. laakiin haddaad tidhaahdo xaggana odaygaan ka ilaalinaya, shilinka caydhuna inuu iga go'a ma rabo, ilmahaygiina dadaana noqon baan gacanta u gelinayaa, hawda karanta iyo hillaacyada bari iskuma heshida midun ku hiro midun ku hagaag saaxiib. tacab khasaar ayaad ku sugan tahay maanta. ingiriiska dadka kula degan, annaga koley ingiriiska dadka degan, qofka marka shaqo la siinayo wax iyagoo og waddankan systemka loo sameeyey, jaamacad adag ka soo baxay ku yaqaanaan, ama ilaa iyo si ay ku yaqaanaan iskuulkii dhexe hoose buu ilmuhu ka bilaabay, kii dhexuu galay, kii saruu galay, college buu galay, jaamacad buu galay. maanta hadduu shaqo doonto reference baa lagu xidhaa. maxaa reference loogu xidhaa? inuu dambi galay.
qofka kasta oo shaqo doonaya reference baa lagu xidhaa reference baad ku xidhaa adigu ilmahaad u geysay ilmahaaga yaad u geysay bal waadiga dhaqan celiska geeyay ee hargeysa xarunta ka furan geeyay ee xamarta ka furan geeyay yaa haysta who is she naagta ilmahaaga tarbiyadaynaysa iyada tarbiyadeeda ma taqaanaa hooyada failure-ka ah you are failure hooyo fail garowday baa tahay ilmahooda rabaayadiisa ku fail garowday maqaadiir maanta waxay kaa faramaroojiso geeri adigu ma celin kartid ilmahaagu hadduu dhimanayo iyo haddii wiilkaaga la dil gabadhaada la dilayo no ma celin kartid anna ma celin karo qof celin karaa ma jirto maalinta ilaahay ugu talagalay iyo meesha ilaahay ugu talagalay ku dhimanayaan laakiin tarbiyad markay noqoto tarbiyadda adaa lagaa rabaa hooyadaa laga rabaa aabbahaa laga rabaa xeraan nin furtay ilmahaagu u furtay dhaqankiisa ma taqaanid booliis jeeg maad marinin wuxuu yahay ma taqaanid wuxuu furtay ma taqaanid naagtuu shaqaaleeyey ma taqaanid ninkuu shaqaaleeyey ma taqaanid sidee baad ugu aamintay ilmahaagii sidee baad gabadhaadii ugu aamintay sidee baad wiilkaagii ugu aamintay sideed gabadhaadii intaad u kaxaysay cadow gacanta ugu gelisay miyaadan adigu cadow dhexda uga jabin hooyada soomaaliyeed haddaati ama aabbaha soomaaliyeed who is ninka dhaqanka bixinaya waa ayo tarbiyadiisa ma taqaanaa isagu inuu yahay waalidinkaar inuu yahay lacag baa lagaa shaqaysanaya dhinac walba waad ka hoogto waad ka baaba'day waxaad raadinaysaa adigoo xitaa hargeysa jooga ama xamar jooga ayaad dhaqankaagii baabi'isay hooyada hargeysa joogta adoo hargeysa jooga iskuulka kenyaha tugu dhigaan bad ka tag ayaad dhigtaa ilmahaaga geysaa oo iskuulka wuxuu ay soomaaligu geeyaan adoo jooga waddankaagii ama laascaanood joog ama ajnabi meel ay dhigaan waa ayo ajnabigu soomaaligu waa ayo qof walibaaba qofkiisa ilmihiisa cidda uu ku aaminayo waa ayo maanta dugsigii baad arkaysaa waa lagu soo faraxumaynaya kuwii dugsiga dhigaya faraxumaynaya adduunyada waad arkaysaa social media adduunka xaafad buu noqday kuwii iskuulka dhigaya faraxumaynaya hooyooyinkiibaa carruurtii faraxumaynaya iska daawiile hooyaa gabdhihii faraxumaynaysa macallinkiibaa faraxumaynaya adiguna intaad landa soo seexataad gabadhaadii tuurtay wadnahee kugu jira adiga wadnaha kugu jiraa waa noocee ma iiga sheekayn kartaa sariirta sidee baad ugu ledi kartaa markaad adigu halkan fadhido anigu guur waan gartay hargeysa deg gartay burcad deg gartay ilmahaaga la guur gartay dhaqan celiska qisooyinka halkan aan idinku soo gudbin doono waa wax maskaxdiinu ay aada uga wareerayso yacnigii gabadhaa yare imika warantay ee hadashay waad aragteen in badan baa la igu yidhi mawduucan ka hadal waxaan isiri armaa lagu eersadaa oo dad dhaqamo celis u shaqaynaya wax qaadanaya oo meelo u furtay ay adiga hadalkaaga eersadaan laakiin maanta wallaahi waxaan la hadhayaa ma jirto gabadhaadii baad intaad ka kaxaysay gurigeedii oo sariirtay kuugu huruday aad ka kaxaysay oo aad geysay muxuu ahaayey meel dhaqan celis oo nimanka jooga dayuusiin yihiin ayaa bil walba ilma lagaga dilaa inantaadii oo lagu siiyaa muxuu ahaay waa iskuul soomaaliyeed ma aha ajnabi no ajnabi ma haysto soomaali baa haysata naagaha haystaana waa soomaali mar walbaba adoo halkan jooga london ama jooga norway ama yurub jooga baa gabadhaadii ilmo lagaga dilaa soomaaliya kuwaa tidhi ii dhaqan celiya baana muxuu ahaayey kora oo fuula yaa daynaya ubax qurux badan oo cidi wadan qofkeebaa daynaya falaawirkaan cidina wadanin ee biyuhu saa uga daadanayaane quruxda badan yaa daynaya sow adigu umaad xarayn sow gumeesha joogay ugumaad geyn hu is dhaqan celis xerada yaa haysta ma dowlad baa xukunta waa maya waa brayford anaa furtay intaan tegay baan ka furtay soomaaliya anigu mid dad baan shaqaaleeye waa ayo dadkaan shaqaaleeye marka anigu ma taqaanaa anigu se yaan ahay halkan baad igu aragtay yaan ahay anigu sidee baad ilmahaaga qof aadan aqoon oo stranger ah ma maskaxdaadu ma sik baa tahay halkan baad joogtaa u k subxii sida adhigaad raacdaayo iskuulkaad u qaadaa galabtiina sida adhigaad soo caraabisaa dawacadaad ka ilaalisaa in lagaa qaataad ka ilaalisaa ma booliiska halkan unbaad ka baqaysay markaa adigu markaad sii socotay soo socotay nothing different qofka jooga soomaaliya ee qalaad eed u geysay iyo ka halkan aad ka ilaalinayso ma jiro wax u dhexeeya faraq waa naag qalaad iyo nin qalaad halkanna waa nin qalaad iyo nin qalaad no mara kalarkuu yahay hadduu soomaali yahay iyo hadduu caddaan yahay iyo hadduu madow yahay iyo hadduu hindi yahay cadowga ilmahaagu waa cadowga ilmahaaga ma kala jeclid dariskaaga fuuli karo soomaaliya kuwanaa faraxumayn kara kuwanaa bahdili kara kuwanaa gumaysan kara yaad u geysay ilmahaaga yaad u geysay xaqiiq marka laga hadlo
waxa maanta yacnigii dhibaatada dhinac walba markaad eegto waxa la yidhi oday reer u weyn iyo maxaa la yidhi islaan umulisaan midna say wuxuu ogiin waxuma sheegaan markaad tidhaahdo soomaali baan wax u sheegayaa bele oo dhan baa lagula soo wadaagayaa waxaan noloshaada maskaxdaada ku fekerin inay dhacaan ayaa lagula soo wadaagayaa oo lagu odhanayaa kanaa dhacay oo kanaa dhacay oo kanaa dhacay oo kanaa dhacay ilaahay ciise dalaan ku dhaartay marmarka qaarkood waan dhega barjoobaa mawduucan iminka haddaan intaanan ka bixin oo isagay si aanan uga bixin mawduucan aan ka hadlayo hooyo soomaaliyeed baa ila soo xidhiidhay 2 hablooda mataana abeen celiyey tiri ma doonayo waddankay joogaan inaan sheego 2 gabdhood bay celisay waxay geysay magaalada muqdisho meel baa la geeyey dhaqan celis ah 2 gabdhood ayay waxay muxuu ahaayay dhowr goorna way tagtay oo ma soo celin karto halkan because halkan hadday yimaadaan dee way og tahay meeshay tegayaan soomaaliya waddankay ka kaxaysay hadday ku soo celiso way og tahay meeshay marayaan iyaduunba u tagtaa waxa weeyaan xerada waxaa looga sameeyey sharci ah carruurta markaa fasaxa u timaadaan haddaa saartaan ilmihii wuxuu la soo qabsanayaa dibadda oo wuxuu la soo qabsanayaa saaxiibadan aad u tagteen oo wuxuu la soo qabsanayaa reeraha markaad waddanka timaadaan ilmihii ma saari kartaan baa boolasiga meesha ah iyadoo macnaheedu yahay ilmahan yuu warramin hadduu bannaanka u baxo yuu warramin weeye macnaheedu bay tidhi waxay tihi markaan tago ilmihii xeradaan ugu tagaa meeshaan alaab ugu geeyaa hadiyad baan u geeyaa anigu marmar baan la soo seexdaa waan ka soo tagaa waayo waxaa laygu yidhi sharciga meesha ha jabinin oo ilmaha meesha ha ka saarin bal dhegayso si fiican ii dhegayso waxay tihi waan ba'ay dhabarka iyo adhaxdaan ka jabay anigaana iska jabiyey farduusey waxay tihi waxaa laygu yidhi sharciga meesha hadeerba waalidiintoo dhanna weeyaan bay tihi keligay ma aha ilmaha certain da' baa loo qabtay bay tihi ilmaha ilaa uu qof weyn noqdo waxa weye ilmihii dad buu la qabsanayaa hadduu doono dad baa safaaradihii la xidhiidhinaya dadku bannaanka ugu tegayo ma taqaaniin idinku markaad fasaxa ku timaadaan ilmaha ma doonayno inay muxuu ahaayey cid la xidhiidhaan telefoonka waa controlable markay ilmuhu la hadlayaan waalidkooda telefoon waxa weeyaan baa monitorin ah oo meesha laga dhegaysanayo ayay soo wacaan heblaayo ii dhiib hebel ii dhiib dibadda ilmahani uma baxaan okay 3 goor baan sidii gabdhaha aan u kaxeeyay dhowr sanadood ay ku jireen 3 goor ayaan meesha ugu tegay lacag aad u badanna waa layga qaadayay waxay tiri gabdhahaygii inta ay meesha ku jireen 3 goor bay mid uuraysatay oo la uureeyay 3 goor ayay mid uuraysatay waxay tiri mar saddexaadkii 2 waa laga dilay mar saddexaadkii gabadhaydii uurle baan u tegay meeshii baan tegay tii kale waxba ma uuraysanin waxay tiri waa mataano waxay tiri kuwa ay dhanta kilka ah weliba isu eg weeyaan bay tiri mar saddexaadkii baan gabadhaydii uur leh baan tegay bay tiri dumeel ilaahay wax ka wado waxba way suurto gelin kari waayeen markaa waxay tiri gabadhii markaan u tegay ayaa waxay tiri gabdhihii markaan tagoba bahala xijaaboo dhaadheer unba dalaqahoo kaala arago inantiiba waxay tiri waardiyaa laga hayaa waxay tiri dee gabdhaha markii hore caadi baan ugu tegi jiray waxay tiri sidii wax lay waardiyeynayo un baan dareemay oo aanan la rabin aniga iyo gabdhaha inaanu isku kariyeysano waxay tiri niman baaba soo safanayo oo haye heblaayo cunto ku keena kaale hooyadaa shaah u keen qur-aanka bal akhri tawjiidka cod macaankaaga tus sidii waxay tiri waxaan dareemay indha sarcaad la ii samaynayo oo kale oo waxay tiri gabdhihii layleeyahay dee waxaanan waxay tiri fahmin waxay tiri maalintii horaan tegay waxay tiri waan soo noqday habeenkii waxay tiri markaan soo noqday aan gurigii imid ayaan waxay tiri fikiray dee waxbaa igu soo noqnoqday sheeko yaran caadi dee ahayn waxay tiri sheeka igu soo noqnoqotay dadkani maxay gabdhahaaga marka waxay tiri gabdhihii sidii wax khajilsan oo kale ama didsan bay gabdhaha laftoodii wejigoodii yihiin hablahaygiina caadi maaha gabdhihii waxaan ku aqaanay maaha dadkiina caadi maaha subax ay tiri habeenkiibaa waxay tiri welwel ma seexanin aroortii waxay tiri markaan horta habeenkii gurigii tagay intii aanan seexan ban xeradii soo wacay waxaan ku yidhi heblaayo iigu yeedh waxaa la yidhi way seexdeen fiidkaa la seexiyaa way seexseexdeen waxay tiri habeenkii 2 indhood isumaan keenin salaatuleyl baan waxay tiri u kacay salaatuleyl markaan u kacay waxay tiri waan tukaday habeenkii ma seexan salaatuleylkii baan usoo kacay waxay tiri xaggan kuwa yarar baan kaga tegay dhinac waan ka shaqaynayay waxay tiri welwel unbaa la igu soo tuuray aroortii markay ahayd saa loo kacay
ayaan kacay soo booday waxay tiri habeenkii markaan salaatuleelkii tukaday ilaahay qalbigaygii wuxuu ku soo riday oo aan waxay tiri waan seexday waxay tiri gabadhan murugadu haysata mooyaane ta kale oo waxay tiri meel tog ah xagga shishe ka taagan oo ii gacan haadinaysoo leh adaa godka igu riday lama unban ku riyooday bay tiri meel toga baa noo dhaxaysay tiri aniga gabadhayda xagga shishay ka taagan tahay markaasay saa igu leedahay tiri gacanta hooyooy adaa godka igu riday unbay ileedahay tiri waxay tiri intaan naxay oo aan waxay tiri qaracmay ayaan waxay tiri aruurdadida ka soo booday waagii markuu baryay baan soo kalahay bay tiri meeshii baan imid waxay tiri sidii si la eg waaniga waxay tiri ku yidhi dhegaysta maxaad igaga soo ururaysa markaan carruurtayda u imaado waxay tiri waa ta layidhi maya bisinka maya ada waanu ku salaamayno waxa anagu waanu soo dhaweynaa waalidka oo waanu soo waxaan ku yidhi bay tiri dhegaysta gabdhahayga waan kaxaynayaa way iraacayaan maanta muxuu ahaayey waxay tiri waaba ta afarta koone laysu saaray maya waxa weeyaan sharciga meeshaad jabinaysaa ilmaha bannaanka looma saaro hadday soo noqon waayaan ka waran hadday asxaab yeeshaan ka waran hadday boodhinka soo tusaan dadka oo dadkay bannaanka ugu tageen ay soo tusaan oo dad kale oo qurbo joogoo la soo celiyaa jooge oo meesha ay soo tusaan oo derbiyaday ka dhacaane waxay tiri khuraafaad baa lai akhriyey waxaan ku yidhi way tiri dhegaysta ilmahayga meesha anaa keenay mana aha ilmahaygu wax aan ka kaaftoomay meeshana waxaan u keenay diin iyo akhlaaq inay ii soo bartaan baanan u keenay maanta waxay tiri ilmahayga waan kaxaynayaa guri walaashi baa magaalada degan bay tiri dee waana tii laygu yidhi ha saarin gabadhaasi waxay tiri walaashay markay timaadana geydhkaba lagama furi jirin naa laygama furay tiri dee geydhka meesha carruurta ku jirtaa waa jeel bay odhan jirtay maanta walaan baxayaa baan ku yidhi bay tiri ama dhaca ama booda anigu maanta waa baxayaaye gabdhahana waa kaxaysanayaaye waxay tidhi markay arkeen inaan ahay dee qof soo xiiratay gabdhahaygii arkeen bay waxay tii waxay tiri dhibaataysnayd arrinta uurka lahayd way tii kale baa waxay tidhi bay tidhi intay soo booday guys enough is enough the game is over enough is enough game is over annagoo meeshii la taagan yahay bay english ku tidhi bay tidhi dad badani waxay tiri ima fahmin calaykum assalaam soo dhawaada walaalayaal dadku waxay tiri badan oon ingiriishka ku hadlin baa ku jira markay gabadhaydii tiri enough is enough game is over anigu waxay tiri waan fahmay inay wax jiraan markii horena walwalba ay hayay waxaan ku idhi bay tiri what's enough is enough hooyo what is the game over what's going on here maxaa meesha ka jira maxay tahay game ka dhammaaday hooyo waad ogaan doontaa bay igu tiri bay tiri waxaa jirayna mare waxay tiri ninkii meesha haystay baa loo yeedhay wuxuu igu yidhi haddaad gabdhahaaga kaxaysanayso shindadahoodana qaad ilagu ogaya waxa lala kulmaya soo maaha haddaad gabdhahaaga kaxaysanayso qaad shindadahooda waxaan ku idhi bay tiri maxaad ka wadaa shindadahooda qaad maya waa inaad alaabtiinana qaadataan maxaad ka wadaa baan ku idhi bay tiri shandadahaada alaabtooda gabdhahaaga alaabtooda qaad maxaad ka wadaa gabdhahaygu meeshay degan yihiin lacag bay ka bixiyaan waa boodhinay deganaayeen maxaa jira soo inantaadu soo ma maqlaysad waxay tidhi adiguna soo maad oran waan kaxaynayaa dee macnaheed waxa weeye inaydaan mar dambe meeshan kusoo noqonaynin markaa dee alaabtiina qaata waxay tiri markiiba waxaan go'aansaday haddaan meeshan ka baxo oon gabdhahan kaxaysto aanan wax ogeyn dee waa lay dafiri karaa soo maaha oo waxaa lay odhan karaa waxbaba may dhicin qolkii waxaan ku idhi bay tiri gabdhaha labadayda gabdhood qol bay degan yihiin waxaan ku idhi bay tiri cidna haygala dejinina qol bay wada degan yihiin oo lacagta waxaan ku bixiyaa inaan iyaga gabdhaha badani qol weyn bay wada degaan anigu lacagta waxaan ku bixiyaa inay gabdhahaygu qol ii wada deganaadaan oon cidna la deganaanin waxay tiri qolkii baanu ku noqonnay wacalaykum assalaam waraxmatullah soo dhawo walaalo gabdhihii baan qolkii ku celiyey bay tiri ina mariya bal qolkiina tagnay gabdhihii baanu u tagnay qolkii baanu tagnay waxay tidhi hooya ii warrama bal miyaan ku warramaabay ku tiri gabadhii uurka lahayd miyaan ku warramaa haa xijaabka intay saa isaga bixisay bay tiri this is the news caloosheedii saa gacanta ugu garaacday this is the baby kan soo maaratid baby waxaad ii soo celisay in lay dhaqan celiyo ayaad ii soo celisay waxaad ii soo gacan gelisay in lay kufsado waxaad ii soo gacan gelisay in lay naagaysto waxaad ii soo gacan gelisay
inaad aniga muxuu ahaayey aad hilibkayga iibiso ayaad iisoo gacan gelisay. This is the baby bay gabadheedii ugu jiri bay jiri. tii kalena waxay qabsatay bay jiri oohin hortaydii. ma ooyin bay jiri tii kale ila waa qof dhibaata ka soo daashay. juuq may odhan bay jiri tii kale. tan uur kale juuq ma odhan bay jiri. tii kalena waxay tiri waan aaminsiin waaye. waxay tiri gabadhii markaan aaminsiin waxaan ku bay tiri intaan dee waxay tiri shoogay oo gabadhii hadallada ay tiri midba midka kale ka shoogay ayaan waxaan ku yidhi bay tiri hooyo ilmaha yaa dhalay. say tiri iskuulkoo dhan cidda dhashay miyaad rabtaa? iskuulkoo dhan baa dhalay. ama farax ama ha farxin iskuulkoo dhan baa dhalay iskuul ilmaha. bal adigu hooyada taa la nool maanta ka waran. hooyada dhaqal ta celin doontaay iyo tale waan celinayaaye ee tan lacagta halkan intay geyso halkan ku raaxaysanaysaay si fiican hadalkayga u dhuux. yaa dhalay hooyo ilmahaaga? iskuulkoo dhan baa dhalay bay tiri dee. which means waxa meesha ka jiro dhan baa saasa. meeshii baan waxay tiri oohin qabsaday. waxay tiri gabdhihii yaryaraa ee ku jiray qolaalka ayaa gabadhayda oohinteedii iyo aniga oohintaydii iyo waxayagiiba maqlay. anywhere oo Europe iyo America iyo North America laga keenay. waa building wiilal iyo gabdho kala qaybsan. waxay tiri hablihii oo dhan baa soo baxay. hablihii yaryara what's going on? maxaa dhacay? waa soo galgaleen. waxay tiri we told her. gabadhii baa ku tiri waan u sheegnay. that means gabdhuhu waxa way wada og yihiin. waayo maxaa dhacay? hooyaday baa timid. haye waanu u sheegnay. hadda haddaan ku dhado waan u sheegay. that means waxaynu isla ogeyn weeyeen wada ogeyn. way wada og yihiin. mid baa intay ii timi bay igu tiri gabadh aad xoogaa roon oo gabdhaha ka roon. habar yar maxaad la ooyeysaa? intay waxay tiri sidaa ii eegto indhaha saa isugu qabatay. maxaad la ooyeysaa habar yar? waad balaangarayseen hooyooyinkoo dhan. waad balaangarayseen in waxaana lagu sameeyo. waad balaangarayseen. ma garanaysaa ilaahay baa nala jiraye waxba ha ooyin. markaad soo kaxaynaysay ee tigidhka u soo goynaysay aad dadka meesha ku jira u keenaysay oo nimankan halkan ka buuxa u keenaysay oo aadan aqoon ood guriga ugu soo xidhay miyaad soo adigu maad balaangarayn? hooyooyinkiinu dhowaad balaangarayseene waxba ha ooyin ayay igu tiri bay jiri. waa mid kale gabadh kale. ninkii waxay tiri waxaan istiri bay tiri armaad waalataa oo aad haddeer meeshaad joogto marada dhigataa. inaad waalataa ood haddeer intaad waxaan isaga baqay bay tiri inaan waashon qac idhaahdo baan isaga baqay. yacnigii waxay tiri markiiba maskaxdaydii waxay ka sheekaynaysa waxaan si aan sameeye waan garan waayey. gabdhihii yaryaraaya kale way yidhaahdeen hadalkii. gabadhaydii waa tan uurkii tiri iskuulkoo dhan baa leh. tii kale waxay tiri waa ooyday. gabadhaydu waxay tiri saasay dibinta u cunaysaa like inay aniga i rabto inay waxay tiri ta uur tan markaa uur kale baa sa bay tiri ta kale waa ooynaysaa. ma ooyeysay tiri tani laakiin waad aragtaa inay calashaan dee cunsan tahay. waxay tiri waxaan istiri weysayso. waxay tiri caliyey waxaan weysaystay anaan wejiga maydhin. waan faraxashay. cududihii baan maydhay. wejigii maan maydhin. lugihii baan maydhay. waxaan isi 2 ragcadood tuko. 3 goor baan ka baxay bay tiri salaadii oo aanan tukan. waxaan tukanaya garan waaye. yacni waxaan istiri bal nafta xasili oo caadi noqo oo xitaa meel aad booliis ku wacan karto oo dadkaagii wacan karto oo reerkaagii wacan karto oo dad aad odhan karto isoo gaadha xitaa samee. saasaan waxay tiri u gariirayaa. candhuufafkaygii waan ka waayey. indhahaygii biyo waan ka waayey. anigoo dhan waxaa noqday bay tiri qof koronta ku dhegtay. qof ay koronta ku dhegtoo kalaa noqday bay tiri. saasaan u qalalay bay tiri. waxay tiri markay i arkeen saan ahay oo aanu waxay tiri neef kudisna waan bilaabay baan waxaan ka baqay inuu wadnuhu isu kay taago meesha. telefoon baan dirtay. walaashay baan la hadlay magaalada degan. walaalkay baan la hadlay. isoo gaadha baan ku idhi idinkoo boolis wata isoo gaadha. idinkoo boolis wata isoo gaadha. anigoo waxay tiri inaan hadalkaygu caadi uusan ahayn. waxaan idhi bay tiri laydinma soo daynaya idinkoo boolis wata isoo gaadha. ma oga dadka ku jira meesha haystaa markaa waxa guriga gudihiisa ka socda.
alaabtii la yidhi xidhxidhay moodaya inaan xidhxidhanayno gabdhihiina waa fadhiyaan waxay tiri isoo gaadha markii aan idhi anigoo gabdhihii waxay tiri gabadh shaqaalihii ka mid ah noo soo gashay waxay tiri anigoo saa u fadhiya gabdhahaygiina midiba sariirtoodii ku fadhido labadoodii mid walba waxay tii cidiyaheeda saa u cunayso tii kalena ooyeyso oo midu ooyeyso oo indhaha de ay adartay inay ooyeyso aniguna saan ahay aanan garanayn bay naagi noo soo gashay saasay noo eegtay big way carartay markay carartay dadkiibay ku dhex dhacday ninkii waxay tiri niman gari waaweyn oo waxay tiri wada khamiis xidhan iyo naago xijaab wada jiidaya baa noo yimid soo baxay maxaa dhacay waxaan ku yidhi bay tiri waxba ma dhicin miyadan baxayn maya ma baxayno waxaanba ka fekeray tidhi haddaad tidhaahdo waxbaa maxaa jira iyo haddaad wax u sheegto armayba meesha idinku qabtaanoo saddexdiinaba idin dilaan baa markiiba igu soo dhacday bay tidhi nabadgelba kaga bixi maysid baan isidhi bay tidhi markaasaan ku bay tiri waxba may dhicin waddankana waxay tiri 2 maalmood baan joogaa waxay tiri wax walba saas ay hor yimaadeen gabdhahaygu gabdho edable bay ahaayeen waxa laale waxay geysteen ma jirin kollejka unbay mid ku dagaalantay iskuulkaa laga soo eriyey waxay tiri iskuulkaa meesheeda wax ka barashadeeda laga soo eriyey ta kalena xoogaa gabadh yar oo iska yar fududun bay ahayd hadday wax dhibi lahaayeen maxaa kaa dhici lahaa bay tiri waxay tiri waxa aan sameeyey ee aan weligay ii muuqan adduunyadii baa waxay ila noqotay tiri koob yar oo biyo wax ku jira ayaan aniguba noqday bay tiri adduunkii oo dhan baa cidhiidhi igu soo noqday waxay tiri walaalka iyo walaashay baa geerkii yimid gow way soo garaaceen securityki mala idinka furayo markiiba 2 baabuur oo booliisay wateen booliisku waa yidhi fura albaabka waa la furay waana loo yimid waxay tidhi waxaan ku yidhi bay tiri intaydaan ila hadlin dadkii meeshan haystay horta booliisku gacanta ha ku dhigo ninka meesha haystay iyo dadka meesha haysta ninkii meesha haystay waa maqan yahay laakiin ninku xigeenkiisa ah iyo 2 nin oo meesha ka shaqaynayo waa maamulayaal oo naqaanay baa la soo qabtay waxaan ku yidhi bay tiri gabadhaydii idinku la hadla abtigeed baan ku yidhi bay tiri iyo habaryarteed la hadla gabadhii baa loo yeedhay gabdhihii way hadleen waxay yidhahdeen wax ma idiin sheegnaa waxaadna waraysan kartaan iyo waxaanu hadda sheegi karnaa ma jirto abti aniga waad ii jeedaa first timekaygiina maaha second timekaygiina maaha meeshanna wax layguma baro sida wax laysugu reybgareeyo ee laysu kufsado ee loo farxumeeyo gabdhahoo dhanna waa lagu sameeyaa baa meeshan lagu bartaa sidaa weeye sidaa weeye sidaa weeye waxay tiri 2 gabdhood iyo aniga iyo cagaha jiidaya iyo dadkii dhowrkii qof ee meesha laga soo qabtay ayaa la soo kaxeeyey gurigii walaashay baan anagu waxay tiri aanu nimid police stationkii baanu alaabtii ku daadsanay gurigii walaashay police meeshii stationkaanu tagnay nimankii baa wax laga qorqoray annagu waxaan waxba kama ogin waxaanay sheegayaan waxba kama ogin gabdhihii waxay tiri wax kasta waa qoreen tii horta waa hadli weyday tii marka oo hinta bilood waxay tiri waa hadli weyday tii kalese waxay tiri way hadashay wax kasta waa qortay aroortii baa ballantu waxay ahayd in meesha la aado dadkii meesha joogay ee dee dembigan ku jiray iyo wixii dee la baadho dambe baadhis la sameeyo waxaa laale wixii arrintan ku lug la soo qabqabto kuwana gacanta lagu hayo annagana waxaa nala beliyey may tiri 11 subaxnimo ayaa nala ballamiyey waxay tiri 11 subaxnimo aanu tagnay 5 saac inta loo yaqaano dadkii xalay aanu soo xidhnayba xalay markii aanu gurigii aadnay bay iyaguna guryahoodii aadeen bay tiri oo la sii daayey aroortii markaanu meeshii tagnay waxaa la yidhi dadkii waa la sii daayey oo maxbaa idinku caddee maxaanu dadka u haynaynaa meeshani waxa weeyaan qofka in maxkamad la saaro oo arrimo la keeno oo waxaad ka hadlaysid ninkii meesha haystay markaan waxay tiri iswaalay buu yidhi kaale waddankeed ka timid waddankaasaan ka imid dadkan aad sheegayso ma intay waddankii kuugu yimaadeen bay gabdhahaaga kaa soo kaxaysteen maya yaa meesha keenay gabdhahaaga anaa geeyey markaad geynaysay miyaad soo ribood garaysay ood gabdhahayga ka warhayana tidhi maya dee nagala tag nacnacda bubaygu yidhi waaba ninkii dhammaaya meesha booliiskaba haystay dee waxay tiri waa run anaa geeyey gabdhahayga miyaad baadhay dadka meesha ku jira dadka yihiin maya dad baa igu yidhi waa meel wanaagsano miyaad taqaanay may hayesoo gabdhahaaga adigu maad geyn markaa haa deena dhaaf haddaad waalanayso dar meelaha ku waalo oo
waxay tiri miyirba markii baa iigu dambaysay anoo taagan baa iigu dambaysay meeshii baan waxay tiri ku dhacay dee dadkii oo dhan baa ila socday bay tiri waa la i qaaday waxaan kusoo miirsaday anoo cusbitaal jiifa anigoo cusbitaal jiifa ayaan kusoo miirsay already habeenkii baa la kala laaluushay oo saadka wax laysugu wada diray gabdhihii meesha ku jiray ee markii hadlay ee yaryaraaya yidhi waanu u sheegnay already weerar baaba lagu qaadayba gabdhihii aroortii markaan xitaa yidhi gabdhaha yaryare xitaa meesha ku jira way og yihiin naayaad la hadlaysaan baa lagu yidhi xerada yada iyo dadka iyaga ma iman kartid baa la yidhi iyo gabdhaha iyagan iyo waxan xuquuq iyo sharci iyo waxay tiri masaajid baan ku cararay waxay tiri markaan masaajid weyn oo shiikh weyn oo hadda aad wada garanaysaan ayaan waxay tiri ku cararay oo aan qurbaha markaan joogay daawan jiray shiikhii baan u tegey waxaan ku yidhi saasaa igu dhacday waxaan ku yidhi bay tidhi may waxay tiri aabbahood baan wacay aabbahooda waddan yurub ka mida joogo xaas kala le baan wacay wuxuu ku yidhi waxaan ku yidhi bay tii saasaa igu dhacday suu yidhi fataalad baa tahay adaa ka fataalayay soo nimanka uma adgeyn hadda you a fataalad nimanka adaa u fataalo gabdhahayga u geeyey maalintaan ku arkana xabad baan madaxa kaaga dhufanaya iyagana xabad baan madaxa kala dhacaya waa nimanaya isug fataalad baa tahee fataal maxaynu u naqaanaa qofka dadka kareeya adaa kareynaya soo maa gabdhahayga geeyey soo adigu meesha ma adgeyn miyaad ila tashata maya adeeradood waxay tiri magaalada joogaa waxay tiri berigii hore dee qof dhuumanayo oo waxaas lahabay tiri soo imay odhan hadday gabdhahani baxaan oy faamiliga bartaan oy dadka bartaan oo ay muxuu ahaayeen meelaha baxbaxaan way kaa baxsanayaan safaaradahay tiri soo meel walba layguma quuqin adeeradeed baa joogo ma oga abtiyaashood baa jooga uma tegi jirin faamiligii oo dhan oo waddanka degan ayaan gabdhaha yaryar cidina la soconay la gabdhu cidun bay u warrami lahaayeen hadday baxaane xitaa hadday jimcaha baxaan cidun bay u warrami lahaayeen maxaa waa soomaaliya meesha oo muqdisho hodanay waxay tidhi dhiman buu la soo hadlay telefoonkaygii baa la soo garaacay waxaa la yidhi gabdhaha adaa meesha keenay miyaa taqaani dadka meesha jooga cidda meesha ku jirta wixii oo dhami waxay tiri anigiiba igu soo gabayoodeen ninkii aabahood anigiibuu i yidhi sidii boolice stationkii anigiibuu i yidhi walaashay anigiibay i tidhi gabdhahaygii anigiibay i yidhaahdeen wax walba anigiibay igu soo biyashugteen adiga miyaa taqaanay may yaa ku yidhi gee maxaad ka doontay dadkan miyaa taqaanay may waxaa laygu yidhi waa meel fiican dadka yaa kugu yidhi yaa baadhay waxay tiri anigiibaaba markii uunbaaba waxay tiri caqligaygii iyo maskaxdaydiiba ummaddiiba anigii igu wada baleym garaysay markaasaan miirsaday oo aan ogaaday khaladka qofka ku jiro o dham inuu aniga yahay gabdhahaygii ehelkaygii ehelkoodii booliiskii qof walba wuxuu yidhi yaa ku yidhi gee miyaa taqaane ninkaygii iga dhalay adeeradood ninkaygi wuxuu yidhi adaa ka fataalayay waxay tidhi xadhig luqunta iskaga xidhna way igu soo dhacday haddaanan kuwa yaryar bartan kaga tegi lahayn oo aan gaaladu guran lahayn aan ka baqayn inay gurtaan oo aanan yurub kuwa kale kaga tegi lahayn meeshii baan sun ku cabbi lahaa waxay tidhi shiikhi baan u cararay haddaba ugu dambayn shiikhii markaan isiri la hadal waan ruxmayaa saasaan u gariirayaa saasaan lee kaadh cunto ma cuno hurdo ma cuno ma seexdo gabdhahaygii ma eegi karo iyagu ilama hadlayaan ummaddii oo dhammi waxay noqotay waa igu soo jeesteen anigii wixii oo dhan waxay ti waa gariiraya saasaan u ruxmayaa wadaadkii maxaa kugu dhacay masiibaa igu dhacday maxaa kugu dhacay masiibaa igu dhacday dee masiibadu maxay tahay waxay ti masiibaa igu dhacday waxaan ahayn waxay ti qur-aan buu igu qabta horta qur-aan buu isaaray qur-aankiibuu igu akhriyey qur-aankiibaan waxay tiri markuu qur-aankii wadaadkii isaaray buu igu yidhi orodoo ilaahay ashahaado bal horta ashahaado waa ashahaad ashhadu an laa ilaaha illa allah washhadu anna maxamedan rasuulullah ma miyir qabtaa haa meeshaad joogta ma iskaran haa magacaaga ma taqaan haa bal orodoo weysayso intaad weysaysato 2 ragcadood tuko waxay tiri waan weysaystay 2 ragcadood baan tukaday qur-aan buu isaaray sidii waxaa noqday bay tidhi qof aad moodid qof hurda oo aad moodid bay tiri haddana riyoonaya anoo fadhiyo saa usoo fadhiya ilan waxay tiri waxna ma cunin mana seexan markuu qur-aankii isaaray waxay tiri saasuma wadaad markaasu wuxuu igu yidhi qol intuu qol saa u furay
waxay ti qolka qaaci baa yaalla qaacigii dhaadheeraa buu yidhi kursigaa ma aragtaa haa 20 daqiiqo intaad ku jiifsato salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam akhriso 20 daqiiqo kabacdi xafiiska iigu soo gal qolkiina wuu soo celiyey wiilasha wuxuu ku yidhi masaajid weyn weeyaad wada garan doontaan haddaan idiin sheego ma raba inaan idiin sheego soo bixin waxay tiri meesha intaan tegey ayaan waxay tiri salliga nebiga dabada qabsaday 10 daqiiqaba waxay tiri nebiga kuma saliyay calayhi salaatu wasalaam waan gamcay bay tiri waxay tiri anigoo dhan biyo soconaya gow baa laygu soo siiyey bay tiri waxaad moodidee 5 daqiiqa anigu moodaya 1 hour bay tiri showbaana gebigaygu waxay tiri almiyir la'aa waxay tiri waxaan soo booday anigiyo qoyan oo aad moodid in biyo laygu shubay qabow qoyaan dhidid wadaadkii baa yidhi ma hadli kartaa imika waan kasaan ku yidhi bay tiri oo laakiin xay ah haa baan ku yidhi bay tiri wuxuu yidhi warran sheekadii baan uga warramay bay tiri waxay tiri saasaa dhacday waddankaasaan ka imid ilmaan keenay sanadkaasaan keenay halkaasaan keenay gabdhay ahaayeen meeshaasaan keenay waa mataano saasaa dhacday wixii dhan baan u sheegay booliiskii baan u yeedhay saasuu i yidhi ninkii baan la hadlay saasuu i yidhi gabdhihii baan la hadlay saasay i yidhaahdeen maanta haddaan waddankii aan ka keenay ku celiyo waa lay xidhayaa kuwii kalena waa la iga qaadanayaa haye halkana haddaan maanta soo saaray dee safaaradaha isu dhiibayaan haye reerkayagii iyo reerkoodii iyo iskuulkii iyo booliiskii waxba gacanta iiguma jiraan haye dee waan kugu soo cararay waxay tiri wuu duceysay wuu duceeyey wuu shoogay wuu karara'ay wuxuu igu yidhi hal talaan ku siinaya halkaa talo wax kaaga dambeeya ma garanayo haye waxaan samaynayaa intaad tagto oo aad tigidh goosato oo labada gabdhood halkan kaga tagto oo aadan is sheegin orod cararoo soo kaxee ciyaalkii kale halkan keen calaaqal kuwan yaryar soo badbaadayo halkan keen kuwanna cusbitaal baa la geeyey iyo qur-aan baa lagu akhriyaya ha lagu maaweeliyo hadday markaa iyagu isdhiibaan oo safaarada isu dhiibaan iyo hadday gacantaada ka baxaan waa dad waaweyn laakiin waxaan ku leeyahay caawa intaad tigidh goosato barri baxdo wiigan gudihiisa ku yaryaraa la soo carar guri ha eegin lacag ha eegin adduunyo ha eegin ilaa haddii lagu dacweeyo labadan la kaxeeyo la geeyo xaggan kuwii gacantaaday ka baxayaan waxay tiri waa taladii baan qaatay walaashay baan u yeedhay waxaan ku yidhi walaalo waan xanuunsanayaa reerkii oo dhan waan xanuunsanayaa muxuu meel cilaajaan tegaya qur-aan baan isa saarayaa gabdhaha muxuu ahaayey intaa gacanta adigu ku hay gabdhihii baa layidhi bal waa tashanaynaa waad noqonaysaan waddankii baad ku noqonaysaan waa la guurayaa hooyadiin laakiin way xanuunsanaysaa qalbigaa jabay bal intay qur-aanka la saaraya caadi noqonayso gurigan baad joogaysaan waa yahay yayna bixin bay ku tiri gabadhaho gabdhaha ilaali gabadhii bay waxay tiri waardiye sar iyo waardiye hoose gabdhihii ka qabatay anna waxay tiri waa carare waa soo orday bay tiri ku yaryar baan u imid waa ku gurtay bay tiri anoo weliba ka shaki qaba inuu aabahoodii dacweeyo oo uu ilan ii hanjabiye uu kuwana gacantayda ka baxaan waxay tiri kuyo nabad qabaan alxamdulilah imid waan la carara bay tiri maalin saddexaadii maalintii shiikha aan u tegay maalinteedii saddexaad gurigii walaashay baan guri weyn baan magaalada ku lahaayoo kiraysan laakiin gurigii walaashay baan kadinka ka soo galay bay tiri anoo iyagiina wada kuwii kalena anoo wata yacni markaa ku talagalay dee labadani inay gacantayda ka baxaan oo ay ka baxayaan i dacweynayaanna dabeedna waddankaana saa dee ay igaga dhammaatay kuwan yaryarna dee aanay intay dee caqliga lahayn aan ka soo celiyo waddankaana ka celiyo waxay tiri sidii baan ku cararay gurigaygii gabadhba deriskaygaa baan u dhiibay furihiisii alaabtiisii oo sidii u goglan wixiisii oo sidiisiiya waxba gabadhii uma sheegin waxaan ku yidhi walaalo gabdhihii baa midi iga xanuunsanaysa kuwana kama maqnaan karo gurigana ma doonayo in muxuu ahaayey uu maaragtay dee la ogaado gabadhii guriga way maqan tahay dheh furaha u dhiib sidii baan ku tegay bay tiri gurigaygii weynaa baan degay gabdhahaygii baan u yeedhay meeshii baan waxay tiri maslaxad galay qalbigaygu qur-aankii baa horta ku degay culimaan u yeedhay qur-aan baan gabdhihii saaray anigu qur-aan baan isa saaray waxa weeyaan waxay noqotay gabadhii fayoobayd ayaa horta waxay tiri markiiba ilaahay nasri buu ii soo diray waayo ilaahay calooshaydu ogaa anuu gabdhahaaga khatar geli isma lahayn diin baan doonayey waxay tiri gabadhii markaan horta waxay tiri meeshii geeyey oo aan gurigii dejiyey oo kala degeen ayaan cimro soo aaday
xaramka ilaahay baan imid waan ducaystay ilaahow waad i og tahay inaanan anigu u jeedin inaanan islahayn sidaa yeel inaan de waxay tiri waa soo baryo ilaahay baan usoo baryo tamay waxay tiri markaan saa xaramkii uga noqdayba waxay tiri tii gabadhii waa umushay wiil bay dhashay gabadhii kalena waxay tiri waa layga soo doonay nin lacag leh oo wanaagsan oo waxay tiri magac leh wiil uu dhalay baa iga soo doonay waxay tiri halhaleel ayaan ku guuriyey tii kale waxay tiri waa wiilkii bay dhashay wax dhashay bay noqoto dee hooyayba noqotay bay tiri oo iyadii maanta ilmihii dee waxay tiri ilma haysata waxay tiri meeshii bay ila degeen sidii baan ku degay sidii baan hadda weli ku deganahay gabadhii ilmaha dhashay waxay tiri waayo ilmihii ma aha ilmaha bale ma aha ilmihii meelay ka soo qaaday way isgaranaysaa way soo noqotay bay tiri waddankay timid waddankiina waxay ku tidhi anigu diin baan bartay hooyadayna ma doonaya inaan ku dacweeye ilmahaygaasaan halkaa la tegaya inabadgeli laakiin waxay tiri wax kalsooniyahoo aan qabo dee ma jirtay tiri cidla miyay iga dacweynaysaa bay tiri waan maqanahaya maya miyaan ogahay waxay haddaan soo noqdo igu dhacaya maya saasaanan waxay tiri ku soo noqon oo maanta waxay tiri walaalay aan kugula soo wadaagay waxa igu dhacay kuwii kalena aan ula cararay mustaqbalkaygii ku baaba'ay maanta dee dacwada igama taallay tidhiyo safaaraddan doona baasaboorkii waan ka jidhiidsan karaa laakiin ilal abid maanta labadaydaa gabdhood bay tiri tani waa hadda tii kale waxay tiri waa dhashay ilmo iyana muxuuha ilmana waa dhashay uurna waa qabtaa tii kale ee layga guursaday tii timid waddanka never ever ma soo geli karo wadnahaygaba holiday bay ku timid muxuu ahaaye wiilka yar bay ii keentay muxuu ahaaye may guursanin ka yar bay ii keentay xoogaabay igaga maqnayd ilaa hadda waxa inay igaadayso un baan u arkaa bay tiri laakiin aniga way iiga dhammaatay waddankaas dhaawaca gabdhahaygu iiga sheekeeyeenna midaan haddaan kuu qoro bay tidhi oo aan kuu qoro aad ka sheekayn karto 3 sannadood oo soo socda hadda weeyaan bay tiri 3 sannadood oo soo socda filim musalsalood marba in ka sheekayn karta weeyaan bay tiri hadda inaan halkaa deganahay baan kuugu joojinayaa gabdhahaygiina taasi gaadhay ninkaygiina waxay tiri waxa labaad ay tiri aan dhaafay waxa weeye ninkii laftiisa gabadhayda intuu u yimid buu wuxuu ku yidhi dacwey hooyada waa inaad dacweysaa waxaan ku yidhi bay tiri maxaad ka faa'iidi haddaan dacweeyo gabadhayda waxay ku tiri maxaad aaba ka faa'iidi anigu miyaan soo noqonayaa already I got a baby baan haystaa ma fahanti ilmaha hooyaday wixii igu dhacay miyay soo noqonayaan ilaahay intuu igu cadaabi lahaa inaan jeelka hooyaday lagu kufsado jeelka anigu aan geynayo jeelka gaalada lagu kufsanayo walaalahayga yaryarna la qaadanayo layga qaadanayo aniga wixii igu dhacay way igu dhaceen ma soo noqonayaan wixii dhacay way tagaan timekiina dib uma soo noqonayo I'm still alive let her inay survivto laakiin anigu hooyaday dacweyn maayo way ii sheegtay tiri aabahay wuxuu igu yidhi hooyadaa dacwey bay tiri mana iman kara bay tiri ninkaygii baanan ka baqayaa ilana jooga xamar yimaada xaas iyo reer leh aniga mar hore iga tegay isagaan ka baqayaa haddaan imaado ma garanaysa isagaan ka baqayaa oonan iman karin gabadha yar haa waa gabadh yaroo wacan weeye waxa weeyaan ilmo yaroo aad u qalbi wanaagsan waxay tiri tii halkan ila joogtaan ku baroortaa markay ii timaadaba hooyoy cafi iyo labadoodiiba hooyoy cafi rabadaan kasta hooyoy cafi waxay tiri maalintii dambe telefoonka iisoo gashay facetime waxay tiri dhegayso cafiska ilaahay ka dalbo adaa meeshaa nagu xareeyay diinta islaamka qur-aanku miyuu kuu ogolyahay murxim qof aanu ahayn gabadhaada inaad u geliso diinta gacanta maya sidee baad nin qalaad iigu aamintay hooyo ood iigu geyse anigoo yaroon waxba garanayn cafiska ilaahay weydiiso waxaad jabisay sharcigii ilaahay cafiska weydiisay buy tidhi anigu laakiin waan ku cafiyey ta waxay tiri ila joogtaa soomaaliya ila joogtaa intay soo weysaysatay hooyo kaalay oo musqusha ii gashay oo ma ii jeeddaa inaan weysaystay ma ii ogtahay inaan islaam ahay ma ii aragta inaan ilmo dhalay intay soo qaaday bay tiri kitaabkii jaamaca gacanta iigu saartay waan ku cafiyey oo weligay ku dacweyn maayo oo weligay ku xumayn maayo oo adduun iyo aakhiraba waan ku cafiyey isdejiyo mar dambe hooyay cafi haygu dhihin mar dambe hay dhihin aniga miyaan iscafiyayaabay tiri anigu xanuunkaasaan la noolahay
haddaan maanta hadli karana aan hadli lahaayo anigu haddaanan baqayn lay wejigayga u baqayn aan la soo fadhiisan lahaa bay jiri anigu maanta hadday gabdhahayga cafiyeen anigaan iscafiyeyn bay jiri ma iscafinayo ninka aabihii baan u tego oday weyn oo hadda dhintay karoonihii dhintay bay jiri cagihiisaan ku ooyey bay jiri intaan lacag u geeyey wuxuu yidhi wiilka anoo maqlaya maandhow aakhiro inaan naar cagaha kuugu duceeyo miyaad rabtaa maya gabadhaa faraha ka qaad hooyadaas khalad baa ka dhacay faraha ka qaad waa ku habaarayaa maandhow ubadkii baan kuu habaarayaa maandhow gabadhii way ila fadhidaaya maqashii inaad cafiday maqashii waxay tiri isaguna odaygii intuusan dhiman buu cafis iiga qaaday oo uu ku yidhi dee naar iyo cadaab janno kala dooro maanta inaan janno kugu duceeyo iyo inaan cadaab ku geeyo kala dooro markaasuu yidhi aaba jannaan doortay uu yidhi faraha ka qaad gabadhaa waan ku cafiyey dhaanoo ku maqlay uu yidhi naa waan ku cafiyey hebaar alla kugu ridii tabti buu isna igu cafiyey bay jiri iyadoo ninkii i cafiyey oo gabdhahaygii i cafiyeen anigu isma cafiyaya bay jiri anigu isma cafinayo walaalay waxaan kaa codsanayaa sheekadaa waxaan rabaa inaan kuu tafaariiqeeye dadka soomaaliyeed hooyooyinka carruurta soo wada iyo kuway hadda ka maqan yihiinba waxaad tidhaahdaa hoog iyo ba dhabarkaynu ka jabnay dheh tii ilaahay anigu ma sheegin alla u badbaadiyey bay jiri oo dee ummaddu ma wada daalinahee laakiin waxaan kaaga soo dayriyey hadduu xitaa maamulku fiican yahay hadduu xitaa meeshu fiican tahay dadka joogaa inaanay wada fiicnayn waxa gabdhuhu ii sheegeen naagaha ayaa dadka faraxumaynaya bay jiri gabdhaha dumarka cuntada karinaya ee qolalka goglaya ayaa gabdhaha faraxumaynaya bay jiri oo sawirro qaawan ka qaadaya bay jiri naagaha qolka goglaya naagaha cuntada karinaya naagaha muxuu ahaa qaar baa ku yidhi bay tiri gabadhayda abaayo waxaadna bartaa sida nimanka loo kiskareeyo loo dhunkado adinku idinka ka yimid caddaanka ka yimide sida loo dhunkado na bar kaale adig iyo anigu isdhunkaneeyo aan sidaan u baraktis gareeyo ibar gabadh baa gabadhayda ku tiri bay tiri ibar sida nimanka loo dhunkado yar oo loo keenay shaqaale oo hudheelka goglaysa qolalkooday gogoshaabay tiri oo wax gabdhuhu ii sheegeen gabadh yar oo jaariyad ah oo la keenay oo meeshii gabdhuhu seexanayeen goglaysa ayaa gabdhihii yaryaraa ku leh idinkaa ka yimid maraykan iyo yurub iyo kanade ibara sida loo dhunkado ragga kaalay afkaaga bal ibar afkaaga adigu afka ibar adigu rag daa bay tiri hadday xitaa fiican yihiin gabdhuhu waxa ay ka sheekaynayaan bay tiri ilaa hadda waa waaweynaadana waa dumar carruur leh yacni waxay tiri waxaan adiguna aad soomaali daqiiqada ugu sheegi kartid annaan ku waxayn kara maaha bay tiri laakiin waa waxaan rabay tiri inaan intaan qoro marba in kuu sheego ma garanaysa waa waxa weeyaan hooyooyin hurda oo UK ama Yurub ama America ama North America aroosyada garbasaaraha saa uga ruxaya oo marka buraamburka reer hebel oo caynkana baa geela loo qalaa oo garbasaaraha daadinaya gabadheedina meel baa lagu faraxumaynaya hooyooyin maanta halkan aroosyada iyo muxuu ahaayey facebookyada ka doobinaya oo le muxuu ahaayey reerka yaga caynkan iyo hebel baa caynkana waxa weeyaan gabadheediina celisay oo tiri carruurtii baan u shaqeeyaayo caguhu halkan bay igu daaleenoo lacagtana intaasay jirtaa labada goorba caydhi baad ka tahay ama ninba guursatayba wax allaale wax idiin hadhay ma jiraan waa meel ba'day daaye safiyay 9 goor la ba'ay qisada kale ee naxdinta le waxay tahay taa halkaasaan ku daynayaa ku dabrayaa gabadhan ka sugayaa dee face 2geeda iyo face 3geeda iyo face 4keeda yadaa tidhi waa qiso fara badan gabadh degan waddamadan Yurub magaaladay tahayna ma sheegayo waxay haysatay 4 wiil bay haysatay gabadh baa iyaduna iga soo sheekaysay waxay tiri 4 wiil bay haysatay 4 wiil mid waa disable meesha disableka ayaa lagu hayaa carruurtaha lagu hayo xanuunsanaya 3 wiiloo cadcado qoordheerayaara ayaa u joogay mid ayaa laga dilay oo waddankii joogtay lagaga dilay 2 u soo hadhay 2 wiil baa midna jaamacad buu dhiganayay dhinacna wuu ka shaqaynayay midna iskuul buu dhiganayay kii iskuulka dhiganayay baa dhowr goor soo dahdaahay midna wuba u shaqeeyaa jaamacadna wuu dhigtaa kii soo dahdaahay bay waxay istiri kani waddadii kii lagu dilay buu ku socdaaye Soomaaliya u celi oo haddaad celiso heblaayo intay gabdha la hadashay boodin fiican ii sheega xamar boodin ku yaallaa loo sheegay
boardingkii bay la hadashay way la heshiisay wax kasta ka soo dhamaysatay boardingkii markay wax kasta ka soo dhamaysay waxay istiri wiilkoo keliya haddaad kaxayso kuma yeelaye labada wiilba waxaad ku tiraahdaa holiday baan idin geynayaa labadii wiilkii jaamacadda dhiganayay iyo kii kaleba waxay tiri holiday baan idin geynayaa waa arrin dhaba oo dhacday gabadhaasi gabadha waa family wiilashii bay tiri waxaynu tegaynaa xamar holiday labadii wiilba waa raaceen waxaa la tegay xamar maalin axada ayaa eriboodka aadan cadde laga degay nimankii waxay ku tidhi boardingka meesha carruurta wiilasha la geynayo niman gaadhi iyo niman eriboodka kusii diyaariya eriboodkii bay kusii diyaargaroobeen labadii wiil iyaduna gaadhi bay gaar u diyaarsatay bal idinka adigu hooyo bal qofkaasi waxay isu geysatay adigu yacnigi ilan qofka wuu celin karaa laakiin waxyaala waxaa jira maskaxda bini aadanka ka weyn wiilashii markii ay eriboodkii ka degeen ayay waxay tiri hooyo hudheelkaynu ku degayno gaadhiganaa idin geynaya waa gaadhi meeshii ka socda jeelka ahaa ee carruurta loogu talagalay waan idiin imanayaa sii gala gaadhigan idinku inamadii gaadhigii bay galeen iyadiina muxuu ahaaye gaadhi bay gashay wiilashii meel xeraada xidhan oo carruurta lagu hayaa la geeyey way arkeen meelshu meel xidhan inay tahay waa rag waaweyn oo midi jaamacada dhigta dee ka kalena ku xigo wiilashii meeshii baa la geliyey qol baa goglan baa la geeyey qolkanaad leedihiin baa la yidhi hooyadoodna lama socoto labadii wiil waa shoogeen wiilashii intay shoogeen waa laga yaabaa sheekada inaad maqasheen waa sheeko aada u caana labadii wiil way qaraacmeen markaa goor galaba bay tageen goor galaba ayay tageen hooyadood ma wicin meeshii wiilashii iyagoo muraaradilaaca bay galeen habeenkii bartii bay seexdeen aroortii ayaa waxaa u yimid nin quraacu sida waa isniin subax isniinaad nin quraacu sida ayaa u yimid quruucdii baa loo keenay meesha waa lagu xidhay moogtahay ninkii ugu horreeyey quraacda u keenay labadoodiiba qabsadeen waa garaaceen ninkii waa qayliyey meeshani waaba meel carruur dee lagu hayo lagu laayo 10 ninoo xoog weynun baaba u yimidba wiilashii waa la garaacay siday tahay wiilkii jaamacadda dhiganayay bartii baa naftu kaga dhacday wallaahi waa gabadhay gabadha ehel yihiin ilaahay baa igaga sarreeya iyo carruurta waa isku reer gabadha sheekada ii sheegaysa wiilkii jaamacadda dhiganaya waa dhintay wiilkii kale sanka iyo afkaba isagoo dhiig ka wada ayaa la wacay hooyadii waa loo yeedho waxa la wiilashaadi way dagaalameen dadkii oo dhan bay la dagaalameen midna wuu suuxsan yahay kii kalena halkan iswaalwaalayaa ee kaalay ismay oo dhan wiilka nafta way ka baxday wiilkii waa dhintay iyadoo wiilasheedii midna meyd yahay midna uusan labada keliyoodba dhiig wadaan oo kaadida kaajayo ayay timid kii bay dhakhtar ula carartay dhakhaatiirtii waxay ku dhaheen labada keliyood midna ma shaqaynayaan labadaba waa iyagoo nool baa la bururiyey sidii loo garaacayay inta cusbitaalka la dhigay wiilkeedii halkaa laga dalooliyey ayaa la miiray sida aynu ka daawanay dadka de waad aragteen dialysiska loo sameeyo ma aha qiso been ah yacnigii wiig ma joogaan waa isniintii xaddiina way yimaadeen kii hore waa laga dilay midi disable buu ahaa iyada oo waxaan ogaa wiilkii oo aabihii oo halka joogay wadankii ay ka dhooftay iyadu ay ka dhooftay joogay uu cararay wiilkii xanuunsanayay uu soo doonay ee kaliyaha laga miirayey iyadiina ayna waddanka soo geli karin wiilkiina sidii lagu dilay arrintiina sidii madaxa isugula jirto waa nin weyn oo jaamacad dhiganaya oo shaqaysanaya yacni waxay islahayd kan kaxee meesha kan ku geli iyadu waxay islahayd markaa gabadhu waxay tiri waxay rabtay inay kan unkahayso oo kan meesha geliso kana intaa la joogo hadhowna iyadiyo ka jaamacadda dhiganaya soo wada noqdaan balaankeedu iyada saasuu ahaa wiilkan jaamacadda dhiganaya iyadu inay soo wada noqdaan bay rabeen may doonayn wiilkan inay ka timaado wiilkan unbay rabtay isuusan u shakin inay meesha ku geliso bes hadhowna ay kan jaamacadda dhiganaya la soo noqoto balaanki laakiin ma ahayn de sidii aad balaangaraysay ma ahayn dadkan meesha jooga adigu haddaad cilmi doon tahay oo jibba ku hayso
oo aad istiri calaykum assalaam waraxmatullah oo aad istiri dadkan wiilkaagay wax u wadaan oo ilmahaagay kula korinayaan oo way kuu rabaynayaan dadkani lacag bay meesha u furteen saaxiib wadnaha ilmaha kuugu jiray adiga aad dhasheen kuma jiro iyaga lacag bay yaqaanaan soomaali meel kastay joogto mayd kama xishoota maanta mayd qof ilaa iyo qof ilaahay u naxariistay mooyaane mayd kama xishooto rag baa dadkay xaramka u uruurinayeen xaramka aduu wax kalaad ka hadlaysaa xaramka dadkii ajinsiyada berigii la kaxaynayey kakaroonaha ka hor rag waxay ka dhacday london intay ajensiya furteen oo lacagtii dadkii shubeen oo xaramkii ilaahay u wadayeen lacagtii soomaaliya ula goostay waa xaramkii ilaahay qaar waxaa xaramka laftiisa jooga oo intay dadka la hadlaan yidhahdo dadkaanu ka cimraynaa oo dadkaanu ka xajinaa oo lacagta qaataan hadda waa rugni ka mid a rugnigii islaamka lacagtii qaataan la cararaya oo dhuumanaya qaar waxaa jira dadkii hindiya imanayey iyo ama turki imanaya furanaya waa aragteen dadka noocaasa ilmahagii meel ma ugu xarayn lahay dadka noocaasii ku jiraan dad waxaa jira maanta ku daweersada dadka aynu aragnay ee laga soo daayo facebooka ee la yidhaahdo u soo gargaara oo markaad istiraado qofkii wacoo lacag u dir qof kalaaba telefoonkii qabanaya qofkii waa la duubay wixiisii dhan waa laga soo daayey hadda waxayba noqotay business qofkii baa laga soo duubayaa lacagtii baa la uruurinayaa waa la jiboonayaa soomaaliya ilaa iyo qofka meel aad u dirto oo qof meesha degan oo ilaahay ka baqaya aad dirto oo aad qofka noocaasi ee lasoo duubay telefoonkiisi waa kaasi u tag tidhaahdo haddeerba lacagtaada iska khasaarin dad waxaa jira isku xidhan oo casaabad ah gruub ah oo isku xidhan oo ka telefoonka haya iyo ka dadka soo daayay iyo dadkii mid la jooga gruub isku xidhan ah numba xeeshii ku xoogsay weeyaan dadka noocaasa ee waxaasi ka suurto gelayaan ee iyagoo maanta adigu maxaad xaggaa ka sheegi baahi baa taalle iyagoo u k jooga oo guryihii kirada ahaa laga bixinayo oo jaamacada ka baxay oo shaqaysta oo ilaahay risiq siiyey oo wax walba haysta gabdhaha yaryar ku soo hooso noqonaya ama iyagoo raga ama iyagoo dumara carruurtoodii fara xumaynaya baabi'inaya ee rafaadinaya ayaad intaad iyagoo waraabayaaloon waxba haysan oo bisaaradaysan baad ugu xaraysay ilmahaagii xero markaasaad leedahay dhaqan baa la ii soo biraya you are failure completely waxaa tahay hooyo faylgarowday iyo aabba faylgaroobay soo maadan garanin halkana lacag baan ka dhaqayaa halkana lacag ayaan ka dhaqayaa oon ka shaqaynayaa xaggana ilmahaygii baan u xaraynayaa daalin aan u xaraynayaa oo intaasoo lacag baa layga gurayaa wax soconaya maaha gacmaha intaad ilaahay cirka u taagato oo tidhaahdid ilaahayow maanta diintaadan u haajirayaa isagaa ku arsaaqaya yaa ku adiga yaa ku siin jiray soomaaliyanu ku soo wada noolayn hal qol oo derma reer degan baa la wada martiyi jiray oo intaasoo carruuri joogi jireen laba qol reer degan baa la wada martiyi jiray risiqeenna ilaaha baa qoray intaasi dadka soomaaliya deganay dowlad la-aan nool yihiin dad taajiriina inagoo qurbaha joogno waxba haysan soomaaliya joogaa taajiriina yaa rasaaqa ilaahay baa rasaaqa sidee baad ilmahaaga cadow gacanta ugu gelinaysaa shimbiri laba geed ma wada gurato shimbiri laba geed ma wada gurato halkana lacagtan ka tegi maayo iyo guriga weyn ee yurub kama tegayo ilmahaygiina cadow baan gacanta u gelinayaa dee labadaada lagood dhexdooda isku xidh haddaba haddeerba hadduu hankaagu saa yahay ha isku dhalin haddii kale inay kaa tagaan oo halkan intay kaa tagaan waddankoodan galaan hadaayadda adigu ma lihid waxay tiri gabadhi yareed maalintii dhaweyto ma koronto qof lagu dhajinaya ayaa hadooba bay tidhi waa runteeda ma qof koronto lagu gubaya bay tidhi gabadhi yareeda maalin dhaweyto hadashay ma aqaan inaad daawateene ma koronto qof lagu dhajinaya bay tidhi ma gabadhaadiyo dabada la tuujinaya bay tidhi ma gabadhaadiyo nin fuulaaya bay tidhi ayaabay tidhi ah rabaayad iyo dhaqan celis sidaa miyaabay tidhi gabadhi yareed inanta yaree laysu dirdirayay waa runteeda ma dhaqan celis ma waxa nimaad u xaraysay yaa aad u xaraysay oo muxuu ahaaye aan marxumkeedii ahayn oo lacag kaa qaadanaya oo gabadhaadii koronto ku dhajinaya oo wiilkaagii koronto ku dhajinaya macallinka dugsigu inuu diluu dhangad ku dhufto ayaan kasoo horjeeda adiguna intaad kaxayso ayaad nin aan ku aqoon oo aan geyin oo shaydaan iyo wuxuu yahay aadan aqoon ayaad meel ugu xaraysay markaasaad tiri dhaqanka ii bar wad dhaqan horta isagu dhaqan ma leeyaha taala horta isagu dhaqan ma leeyahay
caawa hadduu ilmahaagii kaa maqan yahood i daawanayso meeshaad ku ogtahay aad caawa hadduu ilmahaagii kaa maqan yahood i daawanayso meeshuu kaa maqan yahay aad allihii adiga ku hadeeya ilmahaagana hadayn kara allihii adiga ku arsaaqay baa ilmahaagana arsaaqaya allihii adiga ku soo koriyey baa ilmahaagana korinaya laakiin waxaan kuu sheegayaa inaad ilmahaagii waraabayaal iyo dawacooyin aad u xaraysay waxaad ku nooshahayna ayna jirin waxaan kaloo kuu sheegayaa waxaad shalay ahayd ilmahaaga ha u diidin dhallinyaranimadii iyo maanta waxaad arkaysaa hablaha markay galaan iskuullada ee ay ka baxaan koolajyada dhammaan intay la-egyihiin markay bareega leeyihiin waxaad arkaysaa iyagoo wada tima qaawan hadhow markay baska soo wada raacayaan waa wada jam waay hooyaa loo xidhan yahay shalayba adigu waa tima qaawaneedoo afraad lahayd malkhabad baa la gambaysan jiray malkhabad soomaaliya malkhabad ayaa gamba u ahaan jirtay garbasaar dadka u ahaan jirtay jabuuti waxaan garanayaa iyadoo boorsada keliya la watay diric iyo googarad maantana waa hooyooyina carruuray wada dhaleenoo diin bay wada bartaan waay dhalinyaro markay yihiin waay baad ula yaabi maanta hadday timaha qaabsato waay baad ula yaabi hadday surwaal xidhato iyagoo soomaaliya joogta ku surwaalka xidhan jiray maxaad ula yaabaysaa waay baa boodboodkooda iyo dhallinyaranimadooda ay shoog kuugu noqotay waay baad heblaaya celisay celi u leedahay celiyoo la noqota adna isceli adiga laftaadu isdhaqan celi adigaa u baahan inaad isdhaqan celiso maaha ilmuhu dhaqan celis uma baahna adaa dhaqan celis u baahan maaha hooyada sidaa ku fakeraysaa adaa dhaqan celis u baahan anigu carruurta la yidhaahdo habaryartaa orodoo caawi ee maanta la yidhaahdo muxuu ahayey orod eedda la joogo ariga u raaco habaryar la joogo abti ee nimanka kale ka agdhow yihiin taasaaban ahaynba sharci carabtaan la yaabi jiray berigoor waxaa odhan jiray nimanka carabta waxa weye walaalkii gurigiisa ma galo oo wiilku adeerka yahay gurigiisa ma galo alla balaaya idinku dhacday carabta way iimaan laayihiin baan odhan jiray saxiix aayad qur-aana bay ku taagan yihiin carruurtaa inaad geedhka u xidhatoo tiraahdo gabdhaha ii jooga ragii ma soo geli karo wixii aan marxumkooda ahayn iima soo geli karaan xaq baad ku taagan tahay adiguna intaad kaxaysay ayaad xerarra ku xaraysan yahay oo wiilal dhaqan celisi ku xaraysan yihiin oo meel lagu xareeyo intay cunaan oo cabbaan seexanaya iyo niman aadan aqoon baad ka soo tagtay gabadhaadii ama wiilkaagii aad ka soo tagtay maalin walba waxaad daawataa wiilal la kubsaday maalin walba waxaad daawataa gabdha la kubsaday maalin walba waxaad u tahay waxale gabdhaha la kubsaday heblaayo cadaalad bay rabtaa hebel cadaalad buu rabtaa wad abootidaad xerada ugu xaraysay adigu wad abood gabadhaadaad ugu xaraysay muxuu ahaaye xerada qurba joogta waynaga iska dhigayna wada qiiraysane eele heble cadaalad bay rabtaaye u ooyeyna gabdhaha soomaaliya lagu kufsadee yaa kufsiga barmood gareeyey adaa barmood garaynaya waayo adaaba celiyeyba adaa xere ugu xareeyeyba wiilkiina xeraad ku xaraysay gabadhiina xeraad kugu xaraysay kuwa banaanka lagu kufsanayana waad ka xuntahaye kamarada la hoos dhigay you don't know adiga taadii waaba isma oga qalkii bay aslaysaa isma og unsigii bay shidaysaa ismana oga oo cadaalad baynu wada raadinaynaa oo maxaynu cadaalad raadinaa innagii bay naga shidan tahaybe waxa weeyaan waddankii dulbaa ka jira ilaahay baan ku dhaartay carruurtii waa la fuulaya isma og miidhan ba ayaynu nahay innagaa laynaga shaqaystay adigii baa lagaa shaqaystay ilmahaagii baa laga shaqaystay adigiina halkan baad ka shaqaynaysaa nin baad isku cunu samaysay dhinacna ilmahaagii ka fara xumaynaya oo ka bahdilaya oo dhinacna aad lacagtaada iyo xooggaagii ugu daraysaa adiga ninkaagina waa isag jiiftaan haddaad isqabteenba haddii kalena keligaabaad halkan adii heblaayo kofiga ku wada cabtaan ood snapchatka muxuu ahaayey aad ku soo sawirtaa what the life what the failure life what the disgusting life waxa weeyaan waxaan kuu sheegayaa caawa haddaad i daawanayso ama aad barri i daawan doonto gabadhaadii wiilkaagii kaa maqan yihiin take a ticket and go wax kuu yaalaa ma jiraan I don't care anigu business nin furtay anigu one single child oo ku save garooba hadalkayga baan ka jeclahay maxaa iga galay waxba igama gelin nin meel furtay oo carruur ku bahdilaya waxba igama gelin oo siligii ku wareejiyey sidii dadka waalan jeelka dadka lagu xidho crimeka
daraag dealeriska lagu xidho ama dadka dila lagu xidho taar lagu wareejiyaan arki jiray laakiin meel ilmo wax ku baranayaanoo caruur jacayl iyo edab lagu korinaya ku baranayaanoo si lagu wareejiyo lama arag marka waa disaster weeyaan annaga oo dhan haddaan qurbo joogno iyo haddaan qaran joogno waxaan ka raranahay boggaan ka raranahay diintu meel aanan jirin baan ka raadinaynaa nasrigu meeluusan jirin baan ka raadinaynaa upside down ayaan nahay nation dhan oo waxaan nahay dhinac walba ka burburay nation dhan oo waxaan nahay yacnigii ma garanayno lama garanayo waxa weeyaan haddaad ku fikeraysa ilmahaaga inaad celisana stop it waa inaad joojisid haddaad guuraysana guur adugu ood weliba sii wadaysid oo soo wadid saad marka kaleba usii wadid oo usoo wadid haddaadan haddii kalena waddankay joogaan u dhaaf oo halkan edabta iyo akhlaaqda ay kugu leeyihiin halkan ilmaha joogaa yurub iyo meelaha ku koraa ma yaqaanaan cayda aabbaha waxaa ku samey ma yaqaanaan hooyada waxaa ku samey ma yaqaanaan beentana ma sheegaan haddaad imika telefoonka soo qaado damacda inaad waxamato ilmaha wuxuu ku odhanayaa hooyo no fair habaryar inaad gosob garayso ma ogola waa nationka ugu daacadsan soomaali waa nationka ugu inasanka ah ee ugu wanaagsan dadka carruurta yareer qurbaha ku dhalata adigaaga weyna soomaaliya haddaad tagto bay dhaqan celis kuugu ciyeelayaan oodan edabka aadan ka helin ammaan oo lagu caynaya haddii lagu garto inaad qurbaha ka timid oo lagu aflagaadeynaya lagu odhanaya waa islaamo waalwaalan oo lagu aflagaadeynaya iyagoon ku aqoonin qofkaa tahay what do you think ilmo yaroo jailahon luqadiina garanayni markaad dhex geysaad ugu soo xidhay qaar guri eembeeray samaysteen aad ugu soo xidhay wallaahi bilaahi tallaahi intaan tegey ayaan ku dhi walaal ma ku dhaafi karaa naa maxay tan baryootamaysaa baa laygu yidhi naanankanee inan yaroo maalin meel ku cayaaraya intaan magaalo buuhooda lagaa tegey hooyadaa waxaa ku samaysaana eedda alla eedda ceeb hooyadii baa halkaa ka soo boda waxay tiri naawad udab daranta innagaa soo daysana maxaa kaagali ceebtiisa hooyadaa waxeedii waxaa ku samee buu yidhi saani ceeb hooyadaayoo kale weeyaane maxaad ku hadlaysaa mid baa idaba socda anigu yaran wato mana yaqaan wuxuu kaasi ku hadlayo hooyadii baa ii soo baxday oo dee meeshaba aan ka dheerayn annagaa soo daysana bay tiri maxaa kaagali hadduu caayo dadka soomaadan fahmin ama idiin sheegaa markaa haddaynu qarba joogno iyo haddaynu qaran joognaba we all need dhaqan celis dhaqan celiskaynu u baahannahay waa maxay aynu dib ugu noqonno kitaabka ilaahay oo nu xishoono yaa dhaqan celinaya hooyooyinkan muxuu ahaaye tiktoka ruuxaya dabadooda iyo hortooda ruuxaya yaa dhaqan celinaya kuwan maanta le muxuu ahaaye raggii soomaaliyeed oo dhana wada ebera yaa dhaqan celinaya eele muxuu ahaaye cawradiinibaa eberaho kana eber sida ragga soomaaliyeed oo dhan testi laga qaaday dumarka la soo taagan yaa dhaqan celinaya waanagan maanta le caytamayna annagoo hooyooyina caytamaynaa leh raggaa sidanoo ilaa cawradii ka sheekaynayna ilaa sariirtii ka sheekaynayna annaga godadkeena naga jeexan inay kulul yihiin iyo inay qabow yihiin yaa og waanaga caytamayno afka kala taagayne raggu waxay lahaayeen qaar lagu dhexmoodaa jira waa say hadalka u dhigeene ilaa anigu nin ma ihiyo naagu ma tegine waanaga caytamayne haddaan inaga isku wada maqan isma og miidhan baan nahay you know anigu runtaan sheegaa mogta naagta ragga waxood cawradooda wax ka sheegaysaa wad abow dumarka godadkan ka jeexan godna waa isku wada mid tuubana waa isku wada mid godadkan laftooda qaar baa la yidhi waasay hadalka u dhigeene dayro laga keenay oo habeen madow laga cararay maxaa marka laysu caynayaa ma qof baan cayn loo helaynin waay in lays asturto oo qof waliba wuxuu helay ilaahay u arsaaqay ama ilaahay u xafiday la kala xishoodo dadkii waaweynaabaa caytamaya yaa dhaqan celis annagaa dhaqan celis u baahan inagoo dhan baa dhaqan celis u baahan we all need dhaqan celis inaanu dhaqan celino xubnahayna karankaynu ka sheekaynaynaayo sariirteenni baynu ka sheekaynaynaayo ninku naagtiisubu filin ka duubayaayo naagtu ninkeedii bay ka sheekaynaysaayo kanu ka sheekaynaya carruurtina jaal baynu kusoo xidhaynaa because way yaryar yihiin iyagu innagaa ka dhaqan xun oo ka akhlaaq xun carruurta waxba ma xantaan innagaa waxamana been ma sheegaan innagaa beenta sheegna they all innocent we are not innocent we all guilty waa dad masaakiin weeyaan iyagu wax allaale waxay kala og yihiin ma jirto waa dadka yacni hadday helaan hoggaan fiican aabba iyo hooyo isku fiican oo isku faraxsan dadka ugu wanaagsan ee soomaaliya badbaadiyay noqonayaan carruurtan yaryari ee qurbaha ku kortay laakiin
waalidiin ma haystaan hooyo daalan oo dhinac ka raran oo sidaa u fakeraysa oo inay carruurtii god ku shubtay iyo inay khayr u qabato aan kala garanaynin ayaa soo hadhay iyo aabbo ka sheekaynaya siyaasad oo wax allaale wuxuu kala ogyahay jirin hadhowna markuu inta yada ururiyo mid labaad ku soo guursado marka ugu dambaysana dhiikariya macaan iyo stroog soo qaada wax allaale wax inagoo dhan aa dhaqan celiska u baahan oo doon degaysa wada saaran bal arag gabadh yaroo caytamaysa arag adugu fitada waxaa yararo beer ruuxaan dumarkii waaweynaa ee sodoqaha ahaa ee marwooyinka ahaa ayaa social mediadii gabdhaha uga horreeya arooska haddaad tagto kuwa waaweyn baa cayaar ee kuwa yaryar waa xishoonayaan gabdhaha yaryar waa xishoonayaan hooyooyinka waaweyn baa kasoo horreeya xafladdaad tagto waxa garbasaaraha tuuraya iyo waxa timaha qaawani waa kuwa waaweyn gabdhaha yaryar ma arkaysid adigoo adigii saasa baad leedahay gabadhii baan dhaqan celinaya markay ku tiraahdo anna waan baxaya oo anna waan tegaya maxaadba adigii baaba kaa shidan tahaye maxaad ka rabtaa gabadha yar let her enjoy iyadana dhalinyaranimadeeda dee haddii adigu aad diin ku dhaqantid ila hooyooyinkao dhimi ma wada faydno hooyooyin akhlaaq leh oo diinta ku dhaqmo oo xijaaban oo sidii ilaahay yidhi iyo sunnihiisiya baa jooga haddaad doonaysa ilmahaaga inaad celiso raac ilmahaaga anigu gabdhahoo dhan baa wada xunna ma lihi hooyooyinkao wada xunna ma lihi laakiin carruurtan ina sankaa sida ha laga daayo dhaqan celis meel xero la idinku ooday caawa haddaad i daawanaysid ama aad barri i daawan doonto ama aad saa dambe i daawan doonto yaan been laguu sheegin oo indhasarcaad laguu dhigin doonac gabdhaha carruurtaadii iyo dadkii aad ceshatay waad aragteen wiilasha anoroxiga ah ee inta qurbaha laga soo tuuray xadhigga loogu gooyay meelaha looga dawarayo waad aragteen ma dhaqan celis baa taasi mise waa emotional damage mise waa physical kill mise waa yacnigii human abuse miyaad ma dhaqan celis baa taasi gaajo ku dil oo waddanku yaqaanay ka kaxee oo asxaabtiisi ka kaxee adaa ka dhaqaaqi waaye london adaa ka dhaqaaqi waaye sweden adaa ka dhaqaaqi waaye heblaaye iyo heblaawe adaa ka tegi waaye norway adaa ka tegi waaye canada adaa ka tegi waaye maraykan oo saaxiibada la cayaarayo gaboobay way baad u kaxaynaysaa isagoo yaro enerjigiisa qaba markaa waay dhaqankaad baraysaa waa maxay dhaqankaad baraysaa ii sheeg haddaad dhaqan barayso orday israaco waxaad tidhahdaa maalina bignig u samee oo marka roobku doo bannaanka u saar oo xoolaha ha soo raacaan oo geela ha soo arkaan oo lo-da ha soo arkaan intay joogaanna guri weyn oo qurux badan intaad u dhisto halkaa kala soo jeeso shaqaalo u samee halkaa lifekiina ku barta dheh dhulkeenni waa kan nin walba wasiir ha noqday gabadh waliba wasiirad ha noqoto hanka u dhis la guur adiguna haddaadse isku daydo inaad ninka waardiyeyso oo aad markaad kaxayso carruurtaadii ee aad satalgaroobaan ee aad la joogtid lagu yidhaahdo ninkaagiioo tagsigii naagi u saaran tahay baan arkay oo aan ku soo wacan ku dhahdo naayaahe oo odaygaagi mid guurtay wallaahi odaygaagii baan arkay habeen dhaweyta anuu aroos tegayo isagoo gabdha sida miyaa ahaa aroortii aad soo goosato ethiopian airline ma nin unbu farxaddaada ku xidhan tahay iyo happineskaagu marka aad ka fikirtid carruurtanna alleele boodhinka ku xaree adiguna ninka ilaali dee waad ku bacday haddaba odayga iyo carruurta ilaalintooda kala saar saaxiib kala saar ilmaha ama u go ama odayga u go isla wada jooga laakiin waardiyaha ka hayn odaygan gabdho badan baan aqaana anigu intay guureen soo noqday oo la yidhi markuu ay tagtay buu meelaha cagacageeyo dabeedna way soo noqotay heblaayo soo noqo ilmahaagana soo celi dabeedna isla wada jaba meesha halkan wada jooga shar iyo khayr buu wixii alla idin siiyo laakiin odaygaan ilaalinaya ama lacagtan baan ilaalinaya carruurtiina cidlaan ku shubaya carruurtan dabka lagu shubaya ha laga daayo ama odaygan raac ama la joog say rabta yeel adigu hadalkaygu wuxuu badan yahay gabdhaha inaan la hadlayo sababta ugu badan yahay waxa weeye carruurta reerka halka markuu joogo gabadha xukunta dee ma been baynu isu sheegaynaa guryaha xitaa ragga laguma magacaabo xaggee tegaysaa gurigii heblaayo hadda wuu joogaa isagii ninkii lahaa hadda wallahi kirada isagaa bixiya reer hebel goorma inoogu dambaysay gurigii reer hebel gurigii reer faalax guriga reer cabdi guriga reer cali goorma inoogu dambaysay guriga farduus guriga maryan guriga xayaad guriga caasha guriga faadumo guriga heblaayo ma been baynu isu sheegaynaa carruurta ma yaqaanaan adeer waa wada abti they don't know adeer they don't know eedo waa wada abti iyo waa wada habaryar waa carruur reer abti iyo habaryar un le reer adeerba ma leh adeer ma yaqaanaan muxuu ahaa eedana ma yaqaanaan
guriyahana waxa lagu wada macaa gurigii heblaayo waxa marka hadalkaygu idinku badan yahay reerka saaxiibayaal idinka xidho furee sida ka daayay caruurta anigu hadalkaygu run baa loogu yimaadaa gabdhaha dumarkow reerka idinka raro furee oo muxuu ahaaye waynu isgaranaynaaye caruurta sidaa laga daayo ninkan hadduu guursanayo iyo haddii kale let him be shimbir laba geed ma wada gurato gabdhahaaga iyo ilmahaagii aad weligaa kusoo tabcaysay cadow gacanta ha u gelin iyada inaad joogto ilmahaaga la joogto iyo inaad guurtood ilmahaaga la guurto oo wixii alla idin siiya aad soomaaliya ku cuntaan taladayda waa taanta kuu sidaa maanta laakiin waxaan kuu sheegayaa walaahi ceeb iyo caydh iyo cadaab saddexdaaba waa kuwaad qaadatay caydh baad qaadato lacag baad bixinaysa waxaad ku bixinaysaa tarbiyad maaha ee waa bahdilka ilmahaaga ceeb baad qaadatay ilmahaagii adaa cada u xareeyo adoo islaamad muslimad sunniyad sheeganaya ayaad ilmahaagii nin aan murximkiisa ahayn iyo naag jaahilada oodan aqoonin baad u xaraysay caydh baad qaadatay oo maalintay ilmahaagu damiirkoodii iyo emotional iyo physically u dhintaan gacantooda inay kugu dilaan waxba kuma aha ay yidhahdaan maanta waxaad ibaday waa inaan ku dilaa waayo they mentally disturbed they can be mentally disturbed maanta intaan anoon la eg haddii intaan la qaado dad meel la iigu soo xidho oo waxa ilmaha lagu sameeyo la igu sameeyo qofkii igu sameeyey minti uun baan kaga caarsan lahaa maxaan ka sheegayaa markaa ilmo yar maxaan ka sheegayaa markaa mayax yar waa ceeb waa caydh waa cadaab wax allaale waxaad geysatana ilaahay subxaana wa tacaala aduu kaaga xisaabtamaya waa mas-uuliyaddaadii weeyaan adaa u geeyey dadkan adaa kaxeeyo tigirka goostay haddaynu wax walba iskaga dayanay oo wixii xumaa iskaga dayanay oo furiinkii iskaga dayanay oo guurimaadka iskaga dayanay oo carruurta boodhinada lagu soo xidhaya iyo cadowga loo geynayo iskaga dayanay kenyaan daawaday documentariga laga soo duubi jiray hadda ka hor ninka jamaal la yidhaahdaa kasoo duubi jiray jamaal cismaan oo carruurta la siinayo waxaan laga leelaya waxbaa laga matajinaya what the human abuse ma wiilkaygii baan daawan karaa oo beerkiisii la shiidayo nin wax waraabinayo what is this waa maxay waxa la waraabinaya lagaga matajinaya waxaa jira waxa la yidhahda detox baa jira adduunka dhakhtarkaa tagto haddaad daraag cuntid iyo haddaad qaad cuntid iyo haddaad khamri cabtid waxaa la yidhahda detox dawaa lagu siinayaa qofka cusbitaalkaa la dhigaya jidhkiisa dhan waa la maydhaya adduunyada horu martoo dhan macal africa waa laga helaa dawooyinkaasoo qofka la siinayaa faytamiinaad baa la siinayaa 2 wiig buu qofkaasi ku jirayaa marka hore wax la yidhaahdo consecutive detox wax la yidhahdo wax la siinayaa qamrigaasaa laga maydhayaa daraagaa laga maydhayaa dawooyin baa la siinayaa markuu gariiro dawooyin baa la siinayaa muxuu ahaayey wuu seexanayaa cunto ubateedkaa u furmaya waa la detox gareeyaa meel baa loo maraa even though haddaad ilbaxdaan ood western country ku nooshihiin weli xagarkiibaad ku nooshihiin iyo dhaqan been abaad ku nooshihiin geed aadan aqoon wuxuu yahay wuxuu yahay ayaa lagu odhanayaa waa cilaaj jacab hadhowta waxaa lagu odhanayaa alsar baa ku wada dilaaco beerkaa wada bararay wax aadan aqoon baa wiil yaroo ilmahaaga ka yari intoo meel furto buu ka odhanayaa cilaaj baan aqaanaa cilmi uu cimriba muu jirin uu cilmigan uu kugu dibweynayo ku barto he's just such a child by himself waa waxa adduunka ugu daciifsan sheekh mustafa wuxuu yidhi soomaalidu waa dadka keliya dadkooda waalan dhegaysta meel walba waxaad arkaysaa gabdha faraha ka xidhona babababababa leh ilmo yar oo waxaad arkaysaa gabdhaan daweeya ilmo yar oo waxaad arkaysaa telefoon ku hadlayo le jinniyow maxaad sheegtay jinniyow halkaa joogta jinniyow soo bax diin baa taqaanaa qur-aan baa taqaanaa kitaab baa gurigaaga yaalla suuratul baqaari aayad kursideedaa kugu filan adkaartaa kugu filan haddaad qur-aan isa saaraysa meeshaad maraysaa taqaanaa everything upside down dhir baa lagu waraabinayaa waxay yihiin mataqaanid ilmahaagii baa la leeyahay waxaa la samaynayaa cilaaj baa kenya la geynaya dawaa laga dharginaya wiilkaagiiyo beerka tufaya lagu tusaya maanta dahayaa lagu leeyahay ninkanaa ka matajinaya waa abuse waa wax aanan weligay adduunyada intaan noolaa human being ku dhaqma aanan arkin halkan wiilkeeda cisbitaalka hadday geyso ay tidhaahdo muxuu ahay wuxuu u baahan yahay caawimaan u baahanahay cala duul alcohol clinic baa jira drug waxani waa wax la barto waa wax diinteena ka hor la cabi jiray waa wax bacda yani risaaladii nabiga calayhi salaatu wasalaam ka bacdi la xaaraantimeeyey khamrigu waa wax adduunyada ka jira
waa wax uu qofku ku khaldami karo rag iyo dumarba la cabi karo waa wax la iska dayn karo oo laga dawoobi karo maaha wax weyn oo yacni crime ah qofku hadduu galo waa wax laga bixi karo waa wax simbali qofku dadka alcohol abuse-ka ah ee iminka jooga waddankan markay yimaadaan isbitaallada 2 weeks kaliya iyagoo fit ah oo caadi noqday oo dib u dhashay oo yacnigii bay ka baxaan isbitaallada marka detoxka loo sameeyo specialized nurses baa jira lagu special gareeyay sameeya detoxka sameeya dhakhaatiir baa jirta meelo waxaa jira clinic hor rehabilitation oo la geeyo dhalinyarada oo lagaga maydho waxan ayaa jira oo hadduu ilmahaaga ku hoggaansamaya aad geysan kartid wayba Nairobi u tagaysaa ninaan waxna qorin waxna akhriyin ilmahaaga dhir u waraabinaya aaradan adiga laftaada aqoon dhirtani waxay tahay biyo 10 lagu tufo quraan lagu tufaan arki jiray dhirahan xagee baa laga soo gogoyay la iswaraabinayo oo lagu leeyahay dawaad ku dawoobaysaa waxaad kansarka iyo burooyinka iyo balaayada iyo ummadii oo dhan waa xaaqantay waa wax dawo dhacday dishay wax dawo dishay wax dhiri dishay wax muxuu ahaayay jeel lagu xaraystay oo lagu abuse gareeyay bari dhawato waxa isu soo haray dad wada waalan inagoo wada waalan bay isu soo wada hadhayno qofkii waa gabadhaasi maanta inay waalato inay hadda gabadha hada arrinkeeda idinla wadaagay inay waalato yani waxba uga ma dhimana habeenkii waxay ku leedahay anigoo hurdo markaan noqoto waxay tiri saasa gaas ay ku soo rogmanaysaa waxaad moodid wala la 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 markaasaan waxay tiri matag la soo boodaya habeen barka haddaan isrago wixii igu soo dhacaa qof ummadii oo dhim saacad qura kareem iyadii ku soo wada rogtay oo ilmaheedii oo bahdilshay saa u gashay guri walbana waxaasaa ka jira weynaan is ogeyn walaalayaal aan dib isugu noqono sidan haddaynu nahay waxba inagama hadhayaan waxalaale waxay naga hadhayaan ma jiraan dhalinyarada yurub soo galay yurubta kale soo galay hadda intooda badan waa wada waasheen nin waliba markuu karaamkii iyo wixii liibiya lagaga soo sameeyey iyo dhibaatadii iyo wixii ay soo galeen meesha rehab ka sugayeen qof walba tuulo yar oo cidlaa caddaan degan iyo qabow baa la geeyay dhammaan way ku wada dhufteen intooda badan gabadhan maadeerna maalin dhawata wiil wax xanuunsanaya ugu tagtay walaalkeed waxay tiri eedad waxaan u tagay dadkii oo dhan oo wada xanuunsan dhalinyarada meesha joogta way wada xanuunsanayaan waayo waalidna uma joogo ehelna uma joogo yurub gaadh markay soo gaadheen tuulo yaro 4 sac ku xidhantoo islaamiya odayaal joogaan baa lagu soo xidhaya isagoo hey hebelow halow ka wada yimid abiyuuskaad uga tahayna liibiya ku soo galay ayaa meel lagu soo xidhaya sharci waxaa laga yaabaa in hore loogu diido wuu isla hadlayaa ama way isla hadlaysaa waxaasaa ka wada buuxa community ay usoo hagaagaan ee kuwii kasoo horreeyey ee 30 sano qurbaha deganaa meel community ay ugu soo hagaagaan ma jirto qolo waliba qabiil bay meel ugu xidhantahay iyagu waddankii bay la qabsadeen guryahooda hoosta uga wada xidhan meel quray caawimo ka helayaan dad kuwaa cusubee soo galay iyo community ay kusoo hirtaan iyo meel ay yimaadaan ay kusoo dhacaan iyo meel haddii ay yimaadaan laga soo dhaweeyo male yurub meel kasta ay yimaadaan waa adigu istabir meel ay ugu imanayaan cid ma jirto saasaa lasu wada qaniinsan yahay meel ay ku baxsanayaan ma jirto qofku calaqal wuxuu communityga soomaaligu tagaayo markuu soomaali hore uu ku nafisayaayo hadduu xanuunsado waa loogu qaylo tegaya waa adiga arkaya gabdhihii mindiyaha la wada dhacayaan wiilashii maxaa keenay is a mental health issue waa la wada waashay meel kasta waxaad arkaysaa soomaali baa qof mindi ku weeraray soomaali baa qof mindi toori la dhacay soomaali baa qof xabad la dhacay dadka adduunka ugu seefsan baynu ahay immigrationada adduunku waxay dhihi jireen dadka soomaalida ah baasaboor beena uun bay sitaan wax kaloo karayma ma wadaan taasaa inoogu jiri jirtay immigration kastaynu tagno maantana maxaa inoogu jira mindidii toogashadii muxuu ahaayey daraaggii wax kastaa inoogu jira abiyuuskiina inaga imka waa laynaga dhexelaa marka gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay 3 ceebood ceeb iyo caydh iyo cadaab iska badbaad oo iska badbaadi oo ilaahay wixii uu mas-uuliyaddaada ka dhigay iyo carruurtaadu noqonin reer naagi u talisaad rogtay raggii waa erinay bannaankaa loo saaray guriga adaa xidha adaa fura carruurtana adaa mas-uul ka ah masaan doonaan yeelayaabaa cadowbana waan u soo xaraynaya dee maalintay dhintaan magtooda reere kale ku aroorayaan ogow adiguna waxaad ka qaban kartaa ma jirto rag baa fooda istaraya oo mindiye isku qaadanaya oo xabada isula baxaya sheekadu adiga farahaaga way ka baxaysaa kan aad joogtid noqoni dablaa lagaaga dhajinayaa oo kii soo badbaadaaba aduu ku dacweynayaa kii soo badbaadaaba wallaahi aduu ku dacweynayaa dib baad adhigiina u raacaysaa meeshaad ka soo dhooftay waad garanaysaa
yaanaan been isu sheegin carruurta yaan loo tamar sheeganin halkani kuma ceeshaysid intaad ilmaha soo abiyuusto hooyooyinka anigu la hadlayaa waayo waxaynu ognahay waa guryihii heblaayo carruurtii heblaayo maqribkii baa ii soo galay barnaamijka shaargareeya dee dhegaysta dadka balaayada ka badbaadiya oo shaargareeya barnaamijka gabadhaasi anigu qofka ma qodqodee hadday iyadaa isoo doontae wayna i daawanaysaa hadda haddii ay type 1 iyo type 1kii waniga idiin sheegaye intaa ay ballan qaadana keento waan soo gudbin wax jira oo cad baana yaalla meeshan gabadhii yarayd ee inasanka ahaydba dawaad daawateen intiinii daawatay korantay in laygu gubta sheegtay in lays kufsanayay sheegtay in dabada laysqabanayay sheegtay in laystuutuujinayay sheegtay in layskareeyay sheegtay waxba idinmay reebin siqiirkaa yar ee inasanka ah marka waa inaad waxan aad ka hadashaan oo aad iska wacyigelisaan oo aad waxan ka aad muxuu ahaayey aad ka fikirtaan it's good Asha hadday ku fiican tahay xabiibti waad fiican tahay ma sha Allah I'm not talking about individual hadday dhamaynaya alxamdulilah rabbil caalaha ku barakeeyo tabaarakallah ma sha Allah tabaarakallah I'm not talking about individual gabadh baa waxay tiri aniga Somaliland baan jooga carruurtaydina quraanka bay dhamaynayaan yes I know a lot of children they finish the Quran and they become a hufat in quraanka xaftiyaan I'm not talking about the good parents I'm talking about the bad ones so stop aniga inaad individual aad attack raysid anigu I'm not talking about individual I'm not talking about generally baan ka hadlaya anigu I'm not talking about everybody no baaranko dhan way wada xun yihiin anigu malihi qof baa xunna malihi anigu oo dhan dadko dhan baa wada xun so maadan garanin I live in Europe and my son is حافظ القرآن qof walba waa nasiibkiisa I'm not talking about hooyo wanaagsan oo inta ilmaheedii meel fiican u mareen xafaad u noqdeen oo wax u samaysneen I'm not talking about that one is survive family waa good path weeyaan if they carruurtaadu good path ku yihiin some are not darling so I'm not talking about individuals so don't say stop doing this stop doing that Somali people they don't like reality I'm talking about the reality if your kids are safe some are not so waxaan ku sheegayaa don't ya adiga ilmahaaga ilaahay ku barakeeyo intay u hagaageen iyo intay xaafid u noqdeen iyo intay meel u degeen iyo intay u fiicnaadeen iyo intay ku tacabtay tabaarakallah baan leeyahay ilaahay ha u badiyo ha u barakeeyo annagoo dhan bay naafacaya not only you laakiin anigu waxaan ka hadlayaa waa losers kan ka hadlaya I'm talking about the losers I'm not talking about the winners qofkii wingareeyay ee tabcay ee tacabkiisa u rumoobay Allah u barakeeyo hadduu qurbo joogo carruur badan how many children baa carruurta competitionka ku gala quraanka North America iyo Europe oo wada xaafid quraan noqday ilaahay meel walba wuu joogaa my dear I'm not talking about qof kasta meel kasta ilaahay wuu joogaa halkan adoo joogo ilmahaagu xaafid yahay North America ku gabadh yareed maanta dhawayta gaariga iyo lacagta ku guuleysatay Mareykan bay joogtay meel kasta iyagoo joogay ilmaheedu quraanka galaan oo ilaahay u wada hagaajiyay hooyooyinka dadaalay aabayaalka dadaalay that's not my kama hadlayo kuwaasi waa winners I'm talking about the waalidka intay ilmahoodii dad u xareeyeen gabadha yar experience-keeda ka hadlaysa iyo kuwa maanta la ila wadaagay iyo kuwa maanta qaradka ku jira baa laga hadlayaa wax xun marka laga hadlayo dadka xun ee sameeyaa laga hadlayaa not waalidka waxa wanaagsan sameeyay marka don't be misunderstand aniga misinterpret what I'm saying my dear anigu waxa weeyaan qofkii wanaagsan uu wanaagsan yahay hooyadii maanta tacabtii aabihii tabcayba waa wanaagsan yihiin qofkii ilaahay ilmihiisa u hadeeyay ilmihiisa u wanaajiyay ee meel walba u geeyay that's what we want that's what I want Somali community to be that's where I want my people inay survive gareeyaan laakiin anigu ma ka hadlayo I'm not biased and I'm not western lady ma odhanaya anigu ma ihi dadka yidhaahda shalay ilaaway meeshay ka yimaadeen dhaqankooda iyo diintooda ku hoos noqday anigu ma ihi hooyo Soomaaliyeed baan ahay gabar Soomaaliyeed baan ahay Soomaali baan ahay wherever I am I'm proud to be dadkayga dadka dhaqankooda u bahalageliyana ma ihi ariga ka raacaya ii qiimaysan geela ka raacaya ii qiimaysan habeeda aan ka farxalan Soomaalida fahmin waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan dadka sida xun u isticmaalay opportunity-gi iyo chance-ki ay heleen
iyaga oo maanta caruur haysta oo lacag haysta oo guryo haysta oo wax kasta haysta tala xumado hayso kuwa halkan jooga caruurtooda intay guryaha ku xidhaan baatiga aada oo aroosyada aada oo live music aada oo hooyooyina run baan isu sheegaynaa marka waxa weeyaan xabiibti ilaahay ha kuu barakeeyo ha kuu baarigo don't come yani ha ka fekerin adiga gurigaaga maanta waxa yaala huyo marka laga hadlayo Somali communityna lagama hadlayo populationku waxay u badan yihiin waxa laga hadlayaa inta maanta khaladka ku jirtay ee khaldantay baa laga hadlayaa wacyigelinta dadka wax xun hadaan loo sheegina dadku ma wada oga maanta waxa laga yaabaa hooyo fiican oo marwa ah oo ilmaheeda jecel oo kartile oo aqoon leh inay halkan iga daawanayso ay ku fakaraysay ilmahaaga celi oo meel quraanka ha kuugu soo bartaan adiguna ka soo noqo maanta hadalkayga inay ka cilmiyooto ku cilmiyooto ayaa laga yaabaa aan ilmaheeda gacanta u gelinin cadow gacanta u gelinin taasna qof kasta ii qiraya inay jiraan meelo dhaqan celis oo caruurta la geeyo lagaga yimaado ma beenba documentary miyaynan ku daawan channel 4 oo aan Kenya lagaga soo duubin wiilashiyo laga matajinayo soomaydaan wada daawanin yes or no Jamal Ismaan markuu soo duubay gabdhihii la uureeyay nimanku u dhoofayeen soo wixii ku jiray wiilal ma ahayn gabadha yare maanta ka hadlaysa eele haday la hadli waayo anaa hadlaya oo korontaana lagu wada dhajinayay ma anaa ka hadlay mise iyada keento hadashay hooyadan maanta aniga ma kula tahay intaas oo saacadood inaan been iyo halaygu daawado kuula soo har fadhiisanayo waxaan jirin kuu keenayo absolutely no marka waxa weeyaan haddaad adigu ka fekeraysa caruurtaada oo kaliya aniga caruurtaydii waa koreen aniga caruurtaydii waa iimaano quraan masaajid tujiya intii itaqaana haddana waxaan ka fekeraya caruurta Soomaalida ma ihi hooyo ka fekerta kaligeed gurigeeda waxa yaala laakiin waxaan ahay hooyo ka fekerta Soomaali oo dhan ilmaha Soomaaliyeed oo dhan hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan dibkeeda iyo dhaawaceedu waa dibkayga iyo dhaawacayga deefteed iyo winnerkeeduna waa deeftayda iyo winnerkayga weeyaan soo ma fahmin laakiin inagu hadalka waan qaloocinaa haddaad leedahay maanta caruurtaada daawan doonta or maybe she's encouraging for them to come back my goal is not like that my dear that's not my goal my goal is ilma yar oo innocent ah oo laga kaxeeyay meeshii oo hooyadii la socon oo aabihii la socon oo stranger loo geeyo qof uusan aqoon oo qalaad loo geeyay oo qof suun la dhacayo oo qof koronto ku qabanayo oo midi farax xumaynayo oo naagi tiqintiqinayso oo weeye waxaan ka hadlayaa anigu waana against Islamic law weeyaan waa against humanity weeyaan waa against dhaqanka Soomaaliyeed weeyaan whether you take it or not take it Soomaalida runta weligeeda ma jecla wada aad laakiin aan jeclayn anigu I always talk waa ka hadlaya qofkii ugu nacay kaan ugu nacaynba marka waxaan idin sheegayaa Soomaali qoys maahe waa qaran aniguna qaran baan ka hadlaya kama hadlayo qoys sarfayfay ma fahmisaan saaxiibayaal waan idinka tegayaa waxaan idin sheegayaa let's be good community let's be dad ilaahay subxaanahu wa ta'ala garabsada waxaynu haysanaa nimcooyin muslim baynu nahay gacmaha ilaahay aad u taagatay wax kasta alla kuugu bedelaya meesha joogtaba ilaahay baa jooga meesha ugu xun daminka ugu xun lagu qoray baa alla ka badbaadiyay dad ilaahay u noqoto aynu ilaahay u noqono caruuraheena aynu sida ka dayno aan gelino dayaca ilmaha aan ka dayno aan qaswaanino oo nidhaahno qofka marka aad isagoo walaalka ka xaynaya ma raacaysa ilmaha ma yana ilmaha cid gacanta isaga gelin ha u gelin cid gacanta ilmahaaga awarunta habar yar thank you marka waxaan sheegay waxa weeye anigu waxa weeyaan mar walbaba waxa iga ballana anigu intaan noolahay godkana waa la gelaya haddaan dhintana intiina iga dambaysa igu xusuusan doonta xaqiiqiga run baa idin la imanaya wixii community-ga ka dhex jira oo go'a la saarana sida wax loo qariyo waynu naqaanaaye anagu saasaan uga faydiya uga qaawinaya Soomaaliyaan garaneen khayr badan baa idinkaga tagay maqribkii baa ii soo galaya meel aad joogtaan ba Allah idin nabad yeelo cadawgiina Allah ha jabiyo dhibaato oo dhan Allah idinka xafido ubadka Allah inoo xafido ubadkooda Allah inoo xafido tawxiidka Allah inagu dilo dal iyo dibad meel aynu joognaba Allah ina badbaadiyo haddaad dalka joogtana ilmahaaga ilaasho haddaad dibadda joogtana ilmahaaga ilaasho kuwii dalka joogay waa kuwa ilmahooda iyagoo magafa u xidhan yahay oo qaaqda hayo la soo wacayo weer aaday soo maaha waxa maalin walba ilmo la leeyahay muxuu adfac fuluus oo Soomaaliyeed maaha soo waddanka may joogin oo kamay tegin waxa weeye haddaad dal joogtana ilmahaaga ilaasho haddaad muxuu ahaayay joogto dibadna ilmahaaga ilaasho muxuu ahaayay wax right
kugu ah oo sax oo ilaahay ku ogol yahay ku soco rabbi waa ku ilaalinaya laba riyaadna aana ka maalo dib u noqo oo la raaco ilmahaaga raac waan idin salaamayaa meel aad joogtaan dhammaantiin thank you habaryar dhammaantiin waan idin salaamayaa quraysh hodan dhammaantiin oo dhan thank you for your support thank you for your listening thank you for your sharing thank you for your encouragement thank you for everything I love you all aniga waxa weeyaan waxaan goolkaygu ma aha meel dhow dhagaxuna meel dhow buu ku dhacaa warkuna meel dheer buu ku dhacaa anigu waxaan doonayaa dadkaygu inuu noqdo human being community jira oo adduunyada ka socda oo adduunka ka shaqeeya oo dalkooda iyo diintooda ilaashada wixii ka dhex jira ee la ku dhex qarsoon community ku dhex qarsoonna 20 qof iyo 20 qof day jeel u galayso oo la isku qarxinayo waa la sheegayaa wax laga daayo weeye aad iyo aad baan idin salaamayaa kuwa xeryaha haysta ee caruuraha ku abiyuusa markay daawadaan ha cadhoodaan koban xun ha ii qoraan waxay rabaan ha sameeyaan la dambi do I care waa maya anigu waxa weeyaan wax la og yahay oo allana og yahay oo jiro runa baan idin soo bandhigay ama qaado ama ha qaadan cidlaa la iga helay bariha odhan kuwa waddanka jooga ha ku baraarugaan carruurta dad baa dhalay qabiilay ka soo jeedaan bari magtooday doonanayaan wiilka la ciqaabaya nin baa dhalay reer baa dhalay qabiil buu ku abtirsadaa gabadhu sidoo kale hooyo kaliya gabadhay wadato oo xadhigga uga xidhanay meel ku abiyuustay lagu xareeyey ma noqon doonaan soomaadan garanin saasooy tahay baan dhalli gabdha yaryar oo la celiyey ayaan anigu ma ihi dadka daba mara qaar baa lacag idinkaga qaadan jiray inay carruurihiina soo celiyaan oo idin daba marteeyaan I am not ma daba marayo laakiin wax cad oo dadka community-go dhan og yihiin ayaan soo dhigaya anigu one of you baan ahay anigu ma ihi qof Soomaali iska weyneeya qaar baa intay Soomaali iska weyneeyaan ama la'aani u haysaa inay carruurtii hooyadood kala separate gareeyaan oo nin iyo naagti kala separate gareeyaan oo muxuu ahaayay Soomaali community magacooda dhaawacaan idinkaan afkiina idinla hor fadhiyaa inaan hadalkayga English idinkula hadlo baan diidaa oo hadalkaan idinku karbaashayo runta idinku sheegayo aanay dadka kale igu fahmin macnaheedu maaha inaanan confident ku haynan idinka English idinkula hadlo I'm fluent laakiin afkayga yaa la hadlaya anigu Soomaali baan la hadlayaa de miyaan u faanaya marka anigu dadkayga markaan English kula hadlayo gabadha aniga imika English qoraysa igu soo qoraysa halkaasaan joogaa carruurtayduna waa sida aniga Englishka igu soo qoraysa anigu I'm proud to be in Soomaali ku hadlo Soomaaliyadna waan ahay luqadana waan ku hadlaa 3 luqadood baan ku hadlaa Soomaaligayga marka lagu darana waa 4 on fluent ugu hadla laakiin dadkaan la sheekaysanaya waa ayo waa Soomaali ilma Nabi Maxamed waxaan kala xishoodaa inay afkayga wan kalmad English ka soo baxdo wallahi alcadiin marka waxa weeyaan khayr badan baan idin rajaynayaa horaan idinku sheegay ka ariga raacaya iyo shanta Soomaaliyeed qof walba inuu fahmaan doonaya ma English bay ku wada hadlaan dhamaantood in la turjumo qof Soomaali la iga turjumo ma rabo anoo dan guud oo Soomaaliyeed ka hadlaya hal lay wada fahmo khayr badan baan idin rajaynayaa jacayl iyo wanaag iyo sharaf iyo wanaag baan idinkaga tagay I love you all share gareeya videoga aan wacyigelinta igala qayb qaata ila gaarsiiya dadka wacyigelinta waxaas waa wax idin wada damqay waad ka wada xuntihiin I know inaad ka wada xuntihiin I know inaad good heart wada haysataan I know you all feel sad inaad waxa ka xumud aad maqasheen laakiin kideebayna u joojin karnaa haddaydan share garayn sideebayna u joojin karnaa haddaydan ila shaqayn without you waxba ma qaban karo I'm only one person baan ahay anigu qof kaligiya baan ahay Soomaalidan garanin kuwa marka dhaqanka xitaa celin samaysanaya ee xeryaha furtay ayaa baqaya maanta markay taa dhageystaan waxba isku bedelaya marka la arko dadku inuu toosay si loo tooso in carruurteena u badbaadino oo dadka muxuu la siray u badbaadaan ila shaqee fartaada iigu caawi inaad gaarsiiso saaxiibka inta kuugu jirto share garayso igu encourage garay inaan kuu soo galo markaan wax maqlaba ku soo gaarsiiyo oo aad muxuu ahay inta kaliya igu caawi lacag haysiin hay amaanin waxba kale hay tarin inta igu caawi aniga waxa iga qaylisiinaya waa jacaylkaaga iyo Soomaalinimadaada adiguna inta ila garo that's all aad baan idin salaamaya I love you all السلام عليكم ورحمة الله